dilaaga saxafiga waa barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono silsilad soo taxnayd muddo oo lagu ugaarsanayay wariyaasha taasoo uu dhexda ka hayay xasan xanafi xaaji oo ahaa markiisii hore wariye ka soo shaqeeyay idaacado ay ka mid tahay idaacaddii maxalliga ahayd IQK ee muqdisho oo markii dambe ka mid noqotay idaacadihii al-shabaab lelaqaysteen xasan xanafi xaaji cabdisalaan waxa uu noloshiisa inta badan ku soo dhex qaatay al-shabaab waxaana uu ka mid yahay horjoogayaasha ugu caansan kooxdaasi marka loo eego tacadiyada ay geysteen waana shakhsigii kala shaqayn jiray kooxda ugus ee kis al-shabaab dilalka wariyaasha soomaalida ah haddaba xasan xanafi waa kuma isaga ayaa noo sharaxaya qayb ka mida noloshiisa magacaygu saddexaan waa xasan xaaji xanafi xaaji cabdisalaan taariikhdayda anuu sida cad waxaan ku dhashay magaalada muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaan ku soo badbaaray isla magaalada muqdisho dadku gobolada u tagtago marka laga reebo inta yar oo hawshii nimankaas kulli shabaabka laaya aan la waday oo aan gobolada Soomaaliya dhinacan u aaday marka laga reebo inta kale waxaan ahay nin muqdisho ku wax bartay dugsigayga hoose dhexe muqdisho ku dhameystay sare muqdisho ku dhameystay jaamacad ka mid ah jaamacadaha Soomaaliya waxaan ku yaala garaan muqdisho ka wax bartay sanadii 2003 dhamaadkii bilowgeedii ayaa waxaan ku biiray raadiyo muqdisho codka shacabka oo markaas uu maamulayay injineer Xuseen Maxamed Ciidiid dawladeeto 2 bilood kadib waxaan ku biiray إذاعة القرآن الكريم IQK إذاعة القرآن الكريم كا دكتور الشيخ دار محمد قيلة ودوميكاها ملكية ديالنا ولها انتس مركان كبيرة إذا عدوا إلا لبدكم يو لحدي أما تضغطي إرادة على شقين يوبهنتا IQK أنا يقول سلا إن عكلا كودي هو شاء لا شقين تنا من كاس نوحنا أنا وأهم سنة وها الشقدي دي أهوته xilliyada shaqadu aan ka madax banaanahay oo aan shaqada isu soconina in aan iyagii aado ayaan isku wadi jiray labada shaqo maadaama jumcada kale idaacada quraanka waxay aad min laga shaqeyn jiray marka laga reebo barnaamij aan ka lahaa oo jumcada nasashada jumcada la dhigi jiray oo soo gali jiray fiidkii hal saac 2 saacna ka bixi jiray marka laga reebo inta kale jumcada ma laga shaqeyn jumcadii xaqaan aad jiray maalmaha kale reporter aan ku bilaabo shaqadii inta marka warkayga kansado ayagaan aadi jiray sida ayaa ku isku shaqeyn jiray labada dhinac sida ka muuqatay baa xog badan horay aan wada ogeyn ana xasan qalkiisii ugu horeeyay waa markii halkaan aan imid raadiyo muqdisho gaar ahaan kiisas aniga horeeyo rag badan oo saaxiibo halkaan ka shaqeynaya lagu dilay ugu horeeyay Allah naxariistay abkay kiiskii lagu dilay maqalkiisa waa markii ugu horeysay aan maqlay waxaan markii aan maqlay in kiiskaas qofku lug lahay oo nimankan dadka dhibaateeyo oo dadka dila inuu ka mid yahay markii aan maqlaynaa ana hada sawirka aan ka qaadanayay waxa wala mid ahaa sawirka aan ka heystay dhamaan nimankaas guud ahaan waa anigu hal sawir oo dadka dad dila oo aan naxariis lahayn sawirka aan ka heystay oo ahaa asigana kaas baan ka qaatay cabsida ay ka qabaan xasan xanafi wariyaashu waxa ay tahay inta la eg oo ay ka cabsanayaan al-shabaab mid la mid ayay ka cabsanayaan aniga xasan xanafi aqoon uma lihi mana aanan aqoonin laakiin maqal ayaan ku maqlay waxaana ku aqaanaa oo aan ku maqlay inuu yahay nin u qidmeeya al-shabaab shirqol iyo maribna u maleega wariyaasha Soomaaliyeed waxaan ku maqlay in uu dilal qorsheysan ka soo bilaabay wariyaashii waaweynaa ee Honafriq Mahad Axmed Cilmi iyo ninka la jiray Cali Imaan Sharmaake ilaa ma dilalka ay ka yimaadeen in wariyaasha baabuur lagu horjarto ama kali loo dilo oo mid loo shirqooshana waxaan ku maqlay in xasan xanafi team uu hogaamiyo oo dhowr wariye ah wariyaasha ku dhex jiray oo dhexdooda marina ka abaabulayay oo shirqool u dhigay inuu ka mid ahaa hormuud oo u yahay asiga iyo team la yiraahdo Yunis Jibriil nin kale la yiraahdo Stella waxaan ku wada maqlay dhamaantood rag u qidmeeya al-shabaab oo shirqoole wariyaasha oo u maleega dabino lagu dilo wariyaasha waxaa la ii sheegay inuu rag badan oo wariyaasha dalka joogay gaar ahaan raadiyo muqdisho uu dilay waxaa la ii sheegay abkay ninkii la oran jiray ee u shaqeynayay raadiyo muqdisho markuu qabtay buu hore ka soo hadlay isagoo wali dilin abkay baan haynaa waana dilaynaa buu yiri meedkiisa soo doonta
rag idaacadda baa ka qabtay oo codkii ka duubay kadibna meydkii baan doonana soo qaadanay xasan isagoo wariye ah ayuu sidaad maqlayseen muddo ka mid ahaa ururka al-shabaab inkastoo markii dambe ay bilaabatay tuhumo la xiriira howlaha u qarsan waxaana uu xasan markii uu dareemay in loo tuhmaya howlihiisa al-shabaab uu iska aruuriyey warbaahinta isagoo si rasmi uga mid noqday ururka al-shabaab oo ka soo qabtay xilal kala duwan waxaa shaqadeeda igu dhiirigeliyey oo aan ku biiritaankeeda sabab u ahaa in la yidhaahdo aadan xaashi faarax cayro oo isaguna diyaarada dagaalku maraykanku ay ku dileen magaalada dhuusamareeb caasimadda gobolka galgaduud ee gobolada dhex Soomaaliya sanadii 2004 aakhirkeedii ayaanan ka mid noqday rag maleeshiyaad ah oo lagu abaabulayay meel ay ula baxeen mucasirka Salaaxudiin oo ahayd khabarihii Talyaaniga oo ku yaala degmada Hiliwaa degmaan inay tahay ayaan rajaynayaa dabarka dambe isbitaalka ay ku taalay dabadeeto in muddo ayaan la shaqeynayay dagaalkii waxaa bilowday la dagaalanka ururkii isbahaysiga la dagaalanka argagixisada iyo u dhaxeeyay midowga maxkamadaha islaamiga oo ay qayb ka ahaayeen raggaas oo markaas shabaab iyo lagu yeereeyay magaca jiil jadiid iyagoo kala ah 3 baarti oo kala ah baarta uu hogaaminayay aadan cayro oo meesha saldhig u ahaa baarta uu hogaaminayay sheekh Cabdullaahi Mukhtaar oo hadda dawladda Soomaaliya ka mid ah iyo baarta kale uu hogaaminayay wadaadkii la dhihi jiray Sheekh Xasan Turki inuu geeriyooday inta xabsiga ku jira lagu sheegay magaalada Kismaayo inuu ku geeriyooday ilaahay kuma darnaadee ka mid noqoshadii ururkaas iyo ku dhiiritaankeygii iyo howlaheygii anagoo wata ayaan xaggana tegi jiray iyadoo markaas ay ku xirnaayeen raggaas muddo kooban lacaga ay ka heli jireen rag ganacsato ah ama rag ay iyagu u aaminsanaayeen in ay diinta u gargaaraan oo shirkada qaar ay lahaayeen waxaan ku raadaa raggaas qaarna rag dibad joog ah qurba joog ay ahaayeen dadka anigu waxaan kamid ah dhabtii ragga salariga qaata ama mushahariga ah anuguna wixii ku tabaruci jira naftayadii iyo maalkayagii geey jiray isla meeshaas in la yiraahdo macna Shacbaan oo asagana ku dhintay meel leeyahay Girisoor oo dalkacay agteeda ah ayaa igala wareegi jiray hawshuna sidaas ayaa ugu mid noqday 2007 bilowgeedii ama bishii 3aad aan idhaahdee ayaan si dhab ah ugu maxaan ku raadayay shaqo biiray al-shabaab markii la shaaciyay dabadeeto ayadoo damiir guud loogu magacaabay inta la jiray Axmed Cabdi Maxamuud Godane oo markaas isku magacaabay Sheekh Mukhtaar Cabdiraxmaan Abu Zubayr waa sida iyagu u yeereen dhabtii wada shaqayntii muddo kala duwan kadib waxaa laga mid dhigay maktabka iclaamka ama warfaafinta baahinta xarakada shabaab mujaahidiin anigoo markaas mas'uuliga dhigay dhanka xiriirka bulshada ama warbaahinta madax banaan iyo tan al-shabaab markaas wargeyslay al-jihaad iyo website la yiraahdo al-jihaad.com ama .net labaduba ahaa xiriirka ka dhaxeeya afayeenada hadlaya iyo waxa xarakiga ah ee soo baxayo iyo cid loo gudbinayo iyo sida loo kala maareynayo mas'uul kaga noqday markii koowaad al-shabaab markaan ku biiray waxaan ka mid ahaa maleeshiyada dirirta oo magaalada Muqdisho qoryaha ku sidata howlgal gaar ah oo ay qaban jireen ma jiro marka laga reebo ilaahay kuma darnaadee in maxkamaduhu goolay midowga maxkamadaha islaamiga Soomaaliyeed wax la yiraahdo jiri jooshan 9 maxkamadood ay ahaayeen oo gudoomiye president madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ka horeeyay waxaan ku raadayay isha gudoomiye ka ahaa soo way caawin jireen iyaguna howlahooda gaarka way fushin jireen meeshaas ayaan xarun u ahayd dadkaas ayaan ka mid ahaa meeshaas ayaa qoryaha lagu tusi jiray waxa kaloo saldhig caafimaad u ahayd oo meel ay ka duulaana u ahayd markaas la jiray Ubay ibn Kacab oo ku yaala asagana isla degmada Yaaqshiid dhabarka dambe shirkadda la yiraahdo warshada baastada ay waxaan ku raasay saldhig u ahayd caafimaadkooda uu ka duuli jiray howlahooda ay ku wada jireen markasho sawirka guud marka la bixinayo waa meel markas ah oo dadku ku wax bartaan laakiin sawirka gaar ahaaneed ee meesha ku jira waa meel rug caafimaad u ah al-shabaab shaxsadaar oo aysan gudoomiye ugu magacawnay asaana markaas fadhi jiray xafiiska Ubay ibn Kacab sidaas ayayna labadaas saldhig ayayna ku lahayn Muqdisho Cabdullaahi Macalin Mukhtaar dhinacaan degmooyinka Yaaqshiid iyo Cabdilcasiis Shibis Boonder dhinacaan adigu reerihiis ay degan yihiin ayuu asagana ka shaqeyn jiray
marka ragga kale reer maxaan ku raadin Turkaas Turkina dhinaca jubooyinka jira waxa ka dhaxay waxay ahayd in isku gurmadaan qoladii culays la soo saarno qolada kale ay u gurmato intaas baa ka dhaxay siraad laakiin kala amiir ay ahaayeen dad badan fikir kama haystaan sababta loo ugaarsado wariyaasha laakiin Xasan Xanafi oo loo haysto dilalka wariyaasha intooda badan ayaa sharaxaya sirta ka dambaysa qaarajinta wariyaasha Soomaalida maanta Muqdisho warbaahinno fara badan ka jira idaacad fara badan ka jira telefishinno fara badan wakiilo ka sameeyay Muqdisho shabaab dadka dhan ama wariyaasha dhan waxay ugu xukumayeen xukun gaalnimo waa ku celinaya gaalnimo laakiin salaad si u kala horeeyay loo dukaday Soomaalidu tiraahdaa maanta cid shabaab ay cadawtooyada kala dhaxeedo waa dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada caawinaya AMISOM inay nabadda noo ilaaliyaan u yimid Soomaaliya waxa aan brief gareysanahay oo aan aaminsanahay waxay tahay nimankaas maamin Muqdisho ma joogo wariyo ilaa inta la shaqeeyay mooyee inta kale waxa ay ka aaminsan yihiin in xukun gaalnimo ay ku jiraan xukunka ay qaadanayaan murtad ay tahay in la wada dilana ay dhiigooda iyo maalkooda ay u banaan tahay maalmina ayaamna salaadsi ku la qabatay salaadsi u kala wada loo kala dukadaada ku sheeg weeyaan la kala horeysiinayo maalin ninba maalin ajashuna haday kari karaan gacantooda ay ku jiri lahayd al-shabaab ajashu gacantooda haday ku jiri lahayd waa hore wariyaal ka shaqeeyeen Muqdisho laakiin ajashu gacantooda ku jiraan unfortunately maxaan ku raadaan unfortunately ajashu gacantooda kuma jiro so dad badan oo maanta dawladda Soomaaliya kamid ah waxa ay aaminsan yihiin oo al-shabaabna kamid ahaan jiray in ay wariyo ee Muqdisho ka shaqeeyay maanta xukunka al-shabaab ee ka aaminsan yihiin ay tahay xukun gaalnimo xukun dhiigooda iyo maalkooda in uu u banaan yahay laakiin wariyaashu ma oga sirta ka dambeysana waxa ay tahay in laba mid ay tahay waa midda koowaad in loo kala hormaro in al-shabaab la qiimeeyo wariyaashu murtadiin maahan waa dad runtii hawl aad iyo aad u fiican ummadda Soomaaliyeed waxay waa dadka Soomaalida noloshooda go'aamiye weeye bedela dhinac u bedela nabadda u bedela dib u heshiisiinta u bedela horumarka u bedela ganacsiga u bedela waa dad runtii hawl aad iyo aad u muhiim oo nolosha Soomaalida lagu adjust gareeyo u wada dadkan weey qiimo leh laakiin qof qiimo leh uma rabaan wariyaha dilayaan aqoonyahankay dilayaan sarkaalkay dilayaan wasiirkay dilayaan caruurtay dilayaan qof kasta oo ah murtad oo ah qof kasta oo ah qof diinta ka baxay laakiin iyada diinta ka baxay waxa jira mar aan xirnaa oo aan maqlay tuuriyare oo hadda taliyaha nabadgelyada qaranka maxaan ku raadayay dawladda Soomaaliya inuu u bixishay maadaama magac shabaab waa dhalinyartaana inteenan hadda isla joogto iyo in badan oo Soomaaliyeed iyo adduunkuba dhalinyaro sharafna waa lahaan kartaa xumaanna waa lahaan kartaa war magacan waa disheen maxaa ay ku disheen nimanku magaciisa dhalinyartu ay dilayaan aan soo celino maxaa loo baxshaa ugu saal yiraahdo ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed hal yiraahdo wixii ka dambeeyo annaga magaca al-shabaab waa la bedelay waa la socotaa way ku mahadsantahay wasaaradda warfaafintu inay hay'adaha amniga ay runtii ay ayadoon laga fariisan xataa ay totally ay maxaan ku raahdaa ay magacaas hirgelisay al-shabaab wax la yiraahdo al-shabaab magac macnaheedu waxa weeyaan waa dhalinyarana magac fiican waaye magaca fiican inaan u ogolaano maahan in la wasaqeeyo cadawgan aan la dagaalamayna waxa la yiraahdaa ugus waxa weeyaan waxa laga soo gaabshay waa ururka gumaadka ummadda Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa saxaafadda qaybaheeda kala duwan ee halkaan fadhiya midda dawladdu ay maamusho oo runtii aan shaqo weyn haysa iyo kuwa kale oo ayaga naftooda shaqo weyn haya inta aan ku soo biirin inay ku soo biiraan maanta kadib waxa loogu yeerayaa official name-ka oo nimanka ay leeyihiin waa ugus ma doonayno inaan idaacadaha al-shabaab inaan idaacadaha ka maqalno ma doonayno Come
isagoo sii sharaxaya xasan ugaarsiga wariyaasha waxa uu ajandaha labaad ee loo dilo wariyaasha ku micneeyey in laba midood ay noqoto warbaahintu mid meel marisa ajandaha kooxda iyo mid la aamusiyo habab kala duwanba ha loo maree waa marka labaadoo ah in wariye ama idaacadooda ka madax banaan ama wariye aanan wariyahooda ahayn in uu Soomaaliya ka howlgalo labadaasba way ku jirtaa waa in aan helaa ajandaha xafiiska uu ku shaqeynayo waxaa kaloo qasaba inaan helaa ajandaha ka soo baxay xafiiskayga cid meel mariso haddii noqoto haddii dadka Soomaalida ama internationalku in loo sheego noqoto inaan helaa ajandaha xafiiskayga ka soo baxay cid kale oo gudbiso soo masti waxaa ah cabsigelinta ma imaanayso haddaada wax dilin ma imaanayso wax cabsigelin ah waa in marka hore lagaaga dambeeya cabsi aadishaa cabdicasiis oo aad taqaanin aadishaa jaamac oo aad taqaanin aadishaa cabdulaahi oo aad taqaanin aadishaa xuseen oo aad taqaanin aadishaa xasan oo aad taqaanin soo cabdiqaadirkan iyo maxaan ku rahaa geedigan iyo fulaankan kale axmedkan iyo maxamedkan kale marka inteena la dilo it means waa cabsanayaan waxay ku dhiiranayaan booska ay mareen raggii saaxiibada ahaa hamari waa wax ay ka dibdhigayaan booskaas ha isku marin soo cabsidaas meesha way soo galaysaa qodobka labaad oo ah in wax allaala wixii ay rabaan loo sheego ma dhacayso ilaa ay wax cabsigelinteena qayb ka tahay waa wax jira ayadoo inta badan waxaan maqalnaa wariye ayaa la dilay iyo mid baa la dhaawacay waxay dad badan isweydiinayaan inay jirto koox u diyaarsan qofkii wariye sheegtaba in la iska dilo iyo in la dilo oo keliya wariye ay soo sahansadeen oo kadibna sidaas ku dilaan wariyuhu cidda dilayso maxaan ku rahaa waa amni sida aad sheegto waa qoladii bisooladeeda ahayd cidda amraysuna ma ahan inuu asaga is amrayo waa la soo amraa استطلاع لأن ما من روح بستورد وطو أصلا استطلاع أمرين ما فليو فرينتو سهن ويان سهن كان قفكو سمينا يا مر الله مركو سميو محن كل هذا وحال ربا إن الدل عبد العزيز أو أذيق إن الدلو وحصو سمينا نكان أو عبد العزيز ملكو أي صو سمينا أنا جو أروحي واحد لي إيما صو شيء جاي وحصو شيء نكاس أو نكي أميرك أو هاي سجى أميركي وحصو وعيا وأميركي إصلاع نكاس أميركي إصلاع وهو عيا أميركي جودو أميركي جودو أمني مركي أو وعى وحد عيسو إلهي كوم درنا هذا وركة محن كره هذا إيش فلينتا وحصو وعيا مدحي دليلك قرشنا أيو صو وعيا مدحي دليلك قرشنا وحو وعيا أحد كماش أو جو عبد العزيز ومقدشاه روح مسؤولك هو هاي روح مسؤولك هو هاي أيا وعيا دقمده عبد العزيز جوجي دقمداس أيا ضد أدريه sidaas weeyaan processka way islaac la'aan bataatan wax dhaca ma jiro silsilada dilalka wariyaasha la bartilmaameedsanayo waxay ka soo bilaabatay Allah u naxariistay Mahad Axmed Cilmi oo xilli aroornimo ah lagu dilay meel u dhow xaruntii Hoon Afrika Daynile waxaana dilkaasi oo aysan jirin cid sheegatay waqtigaasi la tuunsanaa inay ka dambeeyeen kooxda ugus ee Al-Shabaab oo waqtiyadaasi ay baranayaan dadka Soomaaliyeed waxaana la aaminsanaa in Xasan Xanafi ah shakhsigii shirqoolkaasi soo maleegay wariyaal ka tirsanaa shirkadii warbaahinta Hoon Afrika waxay sheegeen inay maalmo ka hor intii aan la dilin Mahad ku arki jireen Xasan Xanafi maqaayad yar oo ka soo horjeeda Hoon Afrika halkaas oo fadhin jiray isaga la fahantiisu ma diidana Xasan inay halkaas isku arkeen wariyaal ka tirsan Hoon Afrika way jirtaa warka aad sheegaysid hal maalin ay ahayd rag Hoon Afrika shaqeeyay inaan isku aragnay Hoon Afrika ismiyay ku taalay hadda ma garan karo cid dagtay waxa ka soo horjeeda Pibita subaxii lagu cabi jiray qaxwo iyo sambuus ama isku qabsi wax la yiraahdo mashmashi sambuus anaguna aan dagnaa dhabarka dambe ee Pibitada waxa dhici jirtay markaa in subaxii markaan salaada soo tukado masaajid garaashta ku yaala ku soo tukan jiray lacagta ah waxaan soo fadhiisan jiray goobtan markaan soo fadhiisto dabadeed waxa dhici jirtay inaan ku shaaho ama ku qaxwo cabo wariyaashan Afrika warka 2 saac ayuu u soo shaqo tagi jireen hal saac iyo xogo ay imaan jireen deeto qaar iyaga kamid ah ma aha mostly ama badana ma la dhihi karo qaar iyaga kamid ah way dhacday in aan isku aragnay maalmaha kamid ah xasuusanahay aan dhihi karo hebel iyo hebel ama hebel bas oo ahaa in aan meeshaas sheegaysa aan isku aragnay way jirtaa anaguna markaas meeshaas maqaayada meesha ka dambayso ayaan guri ahaan degnaa laakiin ajandahaygu ma ahayn dilka Abdullahi Kulmiya kamid ah
أحد أن عبد الله كلمية هين اسمه أنا أعرف ماشي عبد الله كلمية عدو waxaa jirtay in waliba mar kaliya ma aha in aan dhowr maalmood aan ninkan la yiraahdo Xasan Xanafi aan xilliga shaqada aan u socday aan ku arkay meel yar oo maqaaxi ah oo waa hal qol oo gabar sahra la yiraahdo ay Hoon Afrika horteeda ka sameysay oo raashinka iyo shaaha iyo waxyaabahaas ay ku sameey jirtay meesha isagoo fadhiya waxay ku dhaganeed guriga agaasimaha Hoon Afrika Ahmed Abdisalaam oo albaabka Hoon Afrika ay toos isugu beegnaayeen marka Xasan Xanafi dhowr subaxan meesha ku maray dhowr subaxan arkay isagoo xataa waxaan arkay aad fahmaysid nin deegaanka ah inuusan ahayn sababtoo asaga wuxuu isugu ka sheegay inuu deegaanka yahay waxa geed degan tahay guryahan dambe Falastiin iyo Axmed Cabdisalaam dhabarkooda deganahay marka waa in meeshaan aan deganahay intaan xoogaa shaah iyo qaxwo iskaga soo doontaa xasan xanafi waxa uu ku doodayaa inuusan waxba ka ogeyn dilka Mahad laakiin markii la dhaawacay kadib ay al-shabaab ku wargeliyeen inay dileen Mahad Axmed Cilmi kadibna loo diray inuu soo xaqiijiyo dhimashada dhaawac sida uu yahay xaalka Mahad marka la dilay ragii dilay qaar nin amiir u ahaa ayaa soo wacay anoo hurda meel iskool ah عبد الرحمن يوسف العدالة يقان اسكول كأن أنا وكدي جرت توفيق برادرس أنا جيفو صوعي ديتو محن كل هذا يشوف يرني ونكاسان دلني حبضنا ما لحنا وقفني داوع إنه قاضي أيان الله يشهق صور كاس هوي وحنا عرق ريال محن أكر ما ذاك مدها من حسن موسى سبرية وهذا in Europe I think إنه Europe شو أنا ملاينا يا محن كل هذا معي جيبي قد عد الله لعد يوريو وعوهنا فيك الشقيدة والمينيس زين أوكر محمدان فيو هذا وكيل كواي مدشاك مداي والمينيس مركز دم حسن موسى كوا عليه حسن موسى نيو حنقول روح إيشك سوى حجران تتوحوري وحن جوجنا استال مدينة ما هبنا وحو كشرا صالة استالك وحنا القصة ما يدونا خلين هالسنا ويا هاي أنت سنكون مرة فكرة سو الميني يقول مركز بقاري ماركت ayaa ii yaalay garaash igu dhow gaarigaan la soo baxay nin la yiraahdo Maxamuud Cali Yare Bunayste oo riya ahaa oo hadda asayna dhintay maxaan ku raadayay mutasho ku dhintay 2014kii hadda ahaa ayaa markaas ii dhawaa ninkii aan watay isbitaal Madiinaan aadnay isbitaal Madiinaan joognay saalada mahad ku jiraan tagay meesha Doore rag badan isku aragnay Falastiin Axmed Xaaji rag badan meesha isku aragnay riyaala waa ka tacsiyay ماشي حالة ده مبي رجي ويسوي عيين محن كل هذا إشي استارك صالد وساري السوق هذا حوالي 6 ساعة يحوغ مريات دقيقة على الصعد مش هيكرا أي صوب حد دكتوركي وحنور قلي جريدة مهد إنه دنتي مركز حالة أضيع الوجري ورنتي أرجع حله دل وحقا كينو جوري وقف صحفية سبرير لوجست واللي بقى أنا جنا لشقينا مركز dareenkayga hadda aad ugu maxsuusto inuu soo wacay laakiin waxaan qiyaasaa dadkii soo wacay inuu ku jiray sababtoo ah laba qof oo kaliya ay soo wacayba Xasan Cadde iyo qof kale inuu asaga ayaan jecel qof rag uu ahaa qofkaas dabcan Mahad ma dhintay ayuu yiri mise waa dhaawac marka waxba kama sheegi karaan aniga markaas xaalad deganaan aan ku sugnaa jawaab aan si xataa ilaa hadda ma aqaan Abdullahi Kulmiye Cadow oo ka tirsanaa wariyaashii Hoon Afrika ayaa sheegay inuu ku arkay Xasan Xanafi wadada warshadaha isagoo wata gaari kuna sii socda isbitaalka Madiino idaacadan imaanay shir degdeg ah la galay in aaskaas aan ka qayb galno oo hawshaas la qabto dhowr gaari la qaatay anigu waxaan raacay Xasan Cadde Xasan Sheekh Axmed Cadde يعني وأسرعني جاري جاره وتيان رعني إسبتال كمرك اللي هذا هو شركة لعده ولا ماضي وده ورشدها مركا عن كل عنه حرد يقول وذياش أكتر هذا جاك بوينت أو إذا مدة الدولة ده أي حل جالس كويالي جاك بوينت يجي مركان استغني أو عن سو شغني أيوه هذا ندبر كأنك هذا يا حساني سو جاري روتي مركز الحلول أنا كنا وريان أي رجعنا بيقان أنا مركز ما أوجن كواحدان أما برنامج كان أوني كان كجرا
wuxuu noo yahay nin wariyaha oo idaacadda qur-aanka kariimka ka shaqayn jiray xasan xanafi waxa uu guta hawshii u tagay isbitaal madiino waxaana uu kooxdiisa ka siiyey warbixin xaaladda mahad oo ugu dambayntii ay dhakhaatiirtu xaqiijiyeen inuu dhintay kadibna waxa uu ka qayb galay la tashi laga sameeyey halka lagu aasi doono mahad axmed cilmi isagoo markii dambena ujeeddadiisu ahayd inuu diyaariyo habkii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake oo ahaa agaasimihii hoon afriig wuxuuna xasan wax ka soo qaaday meydka mahad oo janaasadii lagula tukaday masjidka sheekh cali suufi halkaas oo isku arkeen xasan raggii dilay mahad oo uu sheegay inay ka doodeen sidii loo dili lahaa cali iimaan sharmaake raggii dilay mahad goobtaan isku aragna masaajidka iyagoo damacoodu yahay in cali iimaan goobta ay ku dilaan way wargelsheen waxa ayna ii yidhaahdeen in ay rabaan in cali iimaan isla goobta cali iimaan gaari leyla calaawi madow ah langruusel ay ku qorantahay watay inay rabaan inay meesha ku dilaan waan ka naxay mar waan ka naxay marna waa la yaabay nin la yidhaahdo cukaasha farxaan la yidhaahdo magaciisa asala oo ku dhintay meel la yidhahdo coolidgod dagaal u dhexeeyey ahlusunnada ka tirsan gobollada dhexe qaybo ka mid ah iyo al-shabaab ku dhintay ayaa isagoo amniga markaas mas-uulka ahaa wuxuu yidhi gaariga uu wato waa nuucmee waxaan ku idhi waa liila saaraya rag guriyaala ila saarnaa oo ka mid ah maxamed ibraahim raagii hadda dhintay oo baahinta qaranka u shaqeynaya ka mid ahaa rag noocaasa ila saarnaa waa liila saarayaan ku laakiin gaari langruusel waaye marka intuusa aan dhihin ayuu wuxuu igu yidhi gaarigu aan gadan rabno waa nuucee asa waxaan ku idhi gaariga aan gadan rabno waa gaari langruusel ah kalarkiisa ma qurxan yahay waa nuucee kalarkiisu yahay markaas wuxuu qaadanayaa xog ah gaariga nuuciisa in lama soo gaari kara asagiyaa wuxuu jooga iftin meesha la leeyahay ee khibraadka barakaad marka loo socdo ku taallo ayuu joogaa gaariga waxaan ku idhi gaari madow waa langruusel aana ku qoran midab ahaana ana ilama dilno waa mahadsantuu nin la yidhaahdo sandhool cabdi siyaada ii yimid qabuuraha anagoo joogno nin hadda maxaan ku rahdaa isheeg oo tagsiila ahna waa wadi baabuurkiisa uu saarnaay ninkaas wuxuu igu yidhi waxaan ku rahdaa isheeg niyo baabuurka noocaas baa cali imaam markaas shir jira aduu ku hayay meesha shir jira aduu ku hayay jaa miina intaan duugta iyo khabriga jirno miina loo diyaariyey cali aniga cali baabuurkeen baabuur raafi foor ah ayaa noo dhexeeyey cali iyo nin la yidhaha sahal oo reuters u shaqaynayay iyo falastiin iyo darawalka afartoodii ku saarnaayeen baabuurka lila calaawida ah miinadii loo dhigay sida ay rabeen ayay u noqotay cali ayaana meesha ku tagay anigu jugtaan maqlay meel godaan ka soo baxay markaas biyo roob biyo friisin ah ka soo baxay jug aan maqlay baabuurka bareegaan u qabtay raafi foorti waxaa saarnaa dhoorre iyo rag lamid ah saarnaa maxamed maxamuud dhoorre iyo rag lamid ah saarnaa iyagaana igaga horreeyey meydka cali baabuurkii aan ka soo degtay waa imid intaana meydka arag ka hor halkaan inay aheedaan qiyaasayaa inay ka gashay miinada firirkeeda waxaa dhacday mahad raadi cali inuu dhintay goobta meyd ahaan looga soo qaaday meydkii waa la qaaday waxaa la geeyey qabuurihii maxay ahayd barakaad qabuuraha barakaad intaas way nala socdeen raggan ku jiro xasan xanafi mahad intaan la aasinaa waxaa la yeeshay kulan oo cali uu dhex taagan yahay oo aad ka arki doontaa sawirka waxaa go-aanku lagu qaatay in la damiyo idaacadaha muddo 24 saac gudahooda ayadoo laga jawaabayo arrintan dilka mahad oo bilow ahaa dilkii saxafiyiinta cali idaacadda BBC da laanteeda afka Soomaaliga ayuu wuxuu siiyay wareysi markaas uga hadlayo shaqadii mahad Allah naxariiste iyo dilkiisa iyo inuu ahaa mahad nin u doodi jiray ama u hadli jiray dadka amaarta codkooda meel dheer gaarin shaqaduna aysan istaagi doonin Allah naxariiste mahad waxaa la aasay 2 duhurnimo calina markaas BBC da ayuu wareysi siiyay kadib markii mahad la aasay waan soo baxnay baabuur badan baa la isla socotay cali waxay isla socdeen falastiin axmed iimaan iyo sahal yar la yidhaahdo oo reuters inuu sawir qaado u yahay jeclahay sahal markii la soo baxay baabuurta aad u badneed gaariga ka horreeyay cali ayaan saarnayn waddadu waxay ahayd marka meel biyo ku jireen roobaa da'ay miinada marka waxaa la geliyey meel baabuurka uu saas uga yar leexanayay oo dhiiqada saas looga baxayay qaraxaan maqalnay markaan qarax maqalnay gaarigu istaagay
qaraxa dhacay kadib waxaa la sameeyey marka waa la soo degay gaarigiiyo halkaas ku dhacay iyo allah naxariista cali imaan oo meelahana wax ka gaarin halbowlo go-ay lugna ay jaban tahay ayaa isla markiiba gaariga laga soo dejiyey falastiin dhaawac saas u fududaha gaaray dhulkaa lasoo dhigay dhulka markii lasoo dhigay isla markiiba meydow ahaaba kadib sidii aa lagu soo qaaday baabuuraa lagula soo cararay allah naxariista cali sidaas ayuu ku dhintay baabuur badana way socotay oo xasan xanifina markaasi waa nala socday siciid tahliil axmed agaasimihii hoon afriig waxa uu ka mid ahaa wariyaal aan marnaba ka bixin dalka oo aakhirkii ku baxay gacanta kooxda al-shabaab waxay siciid ku marti qaadeen kooxda al-shabaab shir isku beddelay shirqool isaga iyo agaasimayaasha warbaahinta maxalliga ah xasan xanafi waxa uu ahaa shakhsigii warbaahinta ku marti qaaday shirkaasi shirqoolka waxaana uu sharaxayaa wuxuu ka ogaa dilkaas siciid dilkiisa sina wax uu ogaa sina wax ugama ogaa sina waa lagu mishimay saddexdaas bay ahayd raggii ila socdaan oo gaariyan wata kaarib ah iyo lagu wiilo staff ah waxaan ugu soo tagay Shabeelle oo ahayd xaruntii aan ku balamiyo iyo agaasimayaasha idaacadaha ama madaxda idaacadaha inaan ka soo wadana ay ahayd aanan ka soo waday soo stoolatayda aan la baxay kolkii aan la baxay aan soo jeestay laba xabo kala intayna dhicina siciid oo sii dhacayaan arkay laba xaban way dhacay saan hadaan u soo fiireyna unfortunately waxaan arkay rag aan aqaano hebel aan dhihi karo oo shabaab sidaas ayayna u dhacday kadib markuu sheekada iga sheekeeyay xasan xanafi ayaan weydiisay nisa inay ii ogolaadaan xasan xanafi inuu geeyo bartii ay ku dileen allah u naxariistay marxuum siciid tahliil waxayna nisa iga aqbashay codsigayga iyadoo loo xilsaaray amniga aniga iyo eedaysanaha ururka aar ee nisa oo noo galbiyey suuqa bakaaraha kadibna waxuu xasanna dulgeeyay bartii ay marayeen markii la dilay siciid cabdicasiis halkan siciid tahliil axmed agaasimihii warbaahinta hoon afriig ayaa lagu dilay gooladaas ayaan ka soo wada leexanay siciid waa hor soconay anigu halkaas ayaan marayay jingadan dhammaadkeeda siciidna halkan ayuu marayay raggii agaasimayaasha idaacaduna way ka dambeeyeen siciid halkan ayaa la dhigay xasuustaydii halkan ayaa la dhigay waxaan kula hortoon anigu halkaasaan sii marayay aniguna waa soo laabtay siciid meydkiisa halkan ayuu yaalay wixii warbaahinta ka socday ee agaasimayaasha warbaahinta ahna luuqan ayay ku carareen sidaas ayay idaacadda Shabeelle oo dhismeeda bakaara xarunta bakaara ay ku taalay ay u galeen marka halkan xasuus gooni u leedahay 9kii bishii September 2009 ayay ahayd way marka xagee socotay marka waxaan u soconay guriga arkaysid halka guriga ku yaalo aad hadda lagu soo jeedo daaqadiisa ayuu ahaa goobta lagu talagalay in munaasabada xil wareejinta ka dhacdo aan shaqada ku wareejinayay ninkan hadda leeyahay Yunus Cabditaah la oran jiray hadda islaamka kamid ah ama faafinta kamid ah marka halka ayaan u soconay guriga xafladdu ay ka dhacay guriga sayoo ah laakiin inta aan gaarin daqiiqadaha noo dhinna waa dareemi kartaa halkan ayaa la dhigay siciid anuguna halkan ayaan la gadoomay oo luuq ahayd marka sidaas ayaan uga tagay siciid meedkiisa halkan u soo saddex xabadood ayaa lagu dhuftay siciid xabadii koowaad waxay ugu dhacday madaxa laba kalena waa lagu diray kuwa dhagartaan galay intuu ciidan kala dhigay miinada dhex dhigayo waqtigii dhammaayay waqtigiinni adhadalatay baanay taayihii dalkaanay idirkaan ku arkana marna dhaafi maaye siciid tahliil axmed wuxuu qabay shakiga ah inay jiri karto khatar waxaana ka mid ahaa dadkii uu la xiriiray siciid wariye cabdulaahi kulmiye cadow oo ka duubay codkan oo laga helay telefoonka marxuum siciid tahliil markii la dilay kadib dacwadan maxay tahay waxaan ku leeyahay waan rabaa adiga waa tegida nakir diyaar gurigaan joogaa inta ayaana rabo shabaab waa u tegeynaa hashaban maanta waxaa laga balaadiga iyo ragga waaweyn cabdulaahi kulmiye waa saacina marka diyaar garow yahay maxamed abuukar waaya soo baxshaan kasoo wacaya
cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo markaasi ahaa tifaftirihii shabeelle ayaa sheegay in xaruntooda bannaankeeda lagu ballamiyey agaasimayaasha kadibna halkaas la yska raacay wuxuuna cadaala aaminsan yahay in muhiimadda loo wacay ay ahayd oo keliya in la dilo siciid tahliil axmed waxay ugu xusuus badneed maalintii siciid tahliil la dila allah u naxariista oo xasan isugu wacay dadkii idaacadaha madaxda ka ahaa oo adiga aad ku jirtay سعيد وكجري أنا كان كجري هراب وكجري رك بدن إذا عادها مدحك أي كجرين معلن ظهر أي أحد ماشي إذا عاد شبل أي دقيقة لو قبل لمي دتك يوردن حسن يعني يونس اللي هذا جوجي مركي ورياش اللي سكيمد سعيد صودا هاي سعيد حقال السوقي مركي سعيد يمد وحالي لنا كحية وضدي أي لقاضي ماشي أي دقيقة حوالات قارن مركز مرة إني وحر نجاه الريان ayaa telefoon ku hadlay ayuu soo noqday xasan iyo Yunus way soo noqdeen jid yaro xawaalada dahabshiil dhabarkeeda marnay wax yaray naga horeeyeen xasan iyo Yunus waxa ku xigay ayaga Catoosh iyo Cabdullaahi Kulmiye iyo ragaan ka xusuusto Siciid Tahliil iyo Cali Madooba ku xigay aniga iyo Muqtaar Hiraaba u dambeeyay Ilaahay u naxariistay iyo Xasan Cali Geesi markaan jid yar isgoysoo ahaa ay dhaafeen iyaga Siciidna uu ka sii baxay annagana aan wali wadadii gelin ayaan xabad maqalnay xabadii gadaalkeena ka soo dhacaysay inta aan fiirinba waxaan aragnay Siciid oo dhulka yaala waa la kala cararay meesha annaga jid luuq yaraan ku cararnay wax yar markaan ordaan meeshii soo fiiriyay waxaan arkay laba nin oo bastoolada haysto oo muxuu Siciid sii tooganaya iyo Xasan oo soo jeedo meel xaqo kale Yunus ma soo noqonin bahor oo sii socday xasan xanafi waxa uu markii la dilay Siciid kadib wacay wariyaal dhowr ah waxa kamid ah dadkii uu wacay Allah u naxariistay agaasimihii Shabeelle Muqtaar Maxamed Hiraabe oo isaga la fahantiisu ay al-shabaab dileen waa kan Hiraabe oo sharaxaya wixii dhaxmaray isaga iyo Xanafi xasan xanafi ay tawaan الله نحرسه رأسنا هذه لا على سماع نحرسه لا على سماع وأنا نسأل الله نحرسنا مبعنا لا ونحرسنا لكن من كل جميع الناس وضع أي وحشة كورنتي aan la dilin Siciid Tahliil waxay al-shabaab u diideen inay warsiyaan idaacadda Hoon Afrika wariye Cabdullaahi Kulmiye oo markaasi ka qaban jiray Hoon Afrika barnaamijka waraysyada ayaa la xiriiray Xasan Xanafi si uu uga qanciyo waxay tabanayaan kadibna waxa uu Xasan Xanafi ku xiray nin la yiraahdo Yunus oo ay dhaxmartay isaga iyo Cabdullaahi Kulmiye sheekadan waan waxaan walaalow habeen dhawidna waan kula hadlay adigana shabaab iyo dhinaca saxaafadda xiriiriyay maxaa ay ku dhacday arintaas kaasoo waxay ku dhacday idinka dawladda ku meel gaarka ayaa idin amaantay oo xafiiska madaxweynaha tagteen oo saas baa la idin soo dhaweeyay maanta waxaan arkaysaa macnaha inta la yiri iyo laaga midka ku dhigtay waxaana markii percentage la fiiriyay garabka weyn nimanka walaaleenana ka qaatay haddii marka maalin oo shir jira idin madaxweynaha ka dhacay مثلا في هون في لغا سو دhoweeyay jawaabteedu ay noqoto in anaga nagu seexato wax macnaa oo kulleena la qurxoonad ma aysan noqon waxaan dareensanahay nimanka walaalaheena Hoon Afrika waa naga maarmeen waxay nooga maarmeen waxay tahay inay nimanka kale ee anagu aan mustaqbalka u haysanay xabada aan ku ridayno inay nagala safteen marka garabkaan haysaa adigu kuma baahni waa wax Hoon Afrika أنا وسا أنا ما أنت جالس أهم بريتنا حساس واي مركز ساس تحي كذا إنه يكون أنت هاي يلا ورك تعالى إنسان يلا حاجورة يلا صفقة يمكن الجسار لكن أنا كأنه وأنا كأيش بس وما تذكر إلهي يعني ورك تفصلنا mukhtaar maxamed hiraabe agaasimihii idaacadda shabeelle waxa uu ka mid ahaa dad uu soo amray axmed godone in la dilo kuwaasoo ka tirsanaa warbaahinta waxaana lagu dilay marxuum hiraabe gudaha suuqa bakaaraha isagoo uu la socdo wariye axmed taajir oo isna lagu dhaawacay weerarkaas godona soo amray isaga iyo rag wariyaal ah waxaa ka mid ahaa mukhtaar maxamed hiraabe agaasimihii shabeelle ahaa nin la yidhaha Catoosh agaasimaha Simba ahaa nin ayaana Xuseen Cabdi oo BBC wakiil wareed u ahaa rag noocaasa ka mid ahaa shan ay ahaayeen banaadir axmadna banaadir agaasimeeda ayaa ka mid ahaa in la soo amray markaas waxaa socday ololihii president Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu soo dooranayay soo ololahaasa ayaa socday ololihii socday ayaa sabab u ahaa in la dilo dadkaas maadaama loo arkay in ay u ololeynayaan
ololaha madaxweynaha oo Axmed Walad Cabdalla wakiilkii xogayaha guud qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo Shariif oo markaas ururkii dibxiraynta Soomaaliya casmar fadhigeedu ahaa ka soo burqaday Djibouti-na ololaheeda uu ka socdo soo xaqiiqiyan in shantaas la amro waa ogaa aniga Axmed Taajir oo hadda qaxooti ku ah Uganda ayaa ka sheekeynaya wixii maalintaasi dhacay 10 labaad kadib dib aan soo eegay marka waxaan arkay agaasimaha idaacadda Allah naxariisto Mukhtaar Maxamed Raabad Yaala marka bal waxaan sii hubiyay waan dareemay xabad ku dhacday bal xaaladiisa sii agbar islaantaada nolol sii gudbin min dhalinyaro oo dhuuban oo adigu aan ku qiyaasay da'ad 17 jir ilaa 16 oo nin dhuuban oo cad ahaa laakiin ana wajigiisa kale ma garan karayo ayaa xabadii labaad wuxuu kaga dhuftay labada indhood dhexdeeda sujuudda meesha la yiraahdo si saddexaadna anigu igu soo riday oo runtii tinteeda dhex martay qoraan u sii cararay markaan xabado kalena way igu rideen oradkiina waxaan ku dalay shirkadda Telecom Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Xaaji oo tifaftira ku-xigeenkii Shabeelle wakhtigaasi uu agaasimaha ka Mukhtaar Maxamed Hiraabe ahaa ayaa aaminsan in Xasan Xanafi uu ka dambeeyey dilka agaasima Hiraabe Xasan Xanafi dhowr maalin ka hor agaasimaha Allah naxariista Mukhtaar Hiraabe ayuu wiilal la socday baray oo u ekaa dadka wax dila maalintii la dilay Mukhtaar Maxamed Hiraabe Xasan Xanafi wuxuu ahaa qofka ugu horeeyay oo xiriir ragga qaarkeena la soo sameeyay oo xataa ragga qaar isku dayay markii Hiraabe la dilin oo ayagana kharij kooxda ugus ee Al-Shabaab oo hadda gobolkeedu sii dhacayo waxa ay sii laba jibaareen tacadiyada ay u geysanayaan dadka shacabka ah dhawaan waxa ay dad shacab ah oo ku shaaxeynaya xeebta Lido ku xasuuqeen maqaayad halka ku taala madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo maqaayadaasi booqday maalin kadib markii ay mashaqadaasi dhacday ayaa halka ka sheegay in shabaab waqtigoodii dhamaaday nimankan waa xaqin dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya waa dhulkii xaqinka iyo dhulkana xaqinka dhammaan way dhamaanayaan sidaas awoodoodu maalin walba u sii daciifaysa maalin walba hoos u sii aadaysa dadka Soomaaliyeed iyo dawladooda ayaana ka soo hari doona hadii aan la yiraahdo Sheekh Nuur Maxamed Abkey tifaftirihii wakaaladda wararka Soomaaliyeed ee Sona waxay Al-Shabaab ka afduubteen isgoyska ifka xalane xilli galab ah isagoo ku sii jeeda guriga ka deganaa xaafadda suuqa xoolaha ee degmada Yaaqshiid waxaana Sheekh Nuur Abkey oo ahaa nin aan marnaba cabsi ka qabin in la dilo uu si joogto ah u aadi jiray gurigiisa oo markaasi halka uu ku yaalay ay ka talinayeen kooxda ugus xikis Al-Shabaab waxaana Sheekh Nuur uu rumaysnaa qadarta Alle isagoo ku adkaystay inuusan marnaba ka baaqsanayn gurigiisa marar dhowr ah oo lagula taliyay inuu iska seexdo wasaaradda warfaafinta
ismaaciil salaad guuleed istiila oo markaasi ka hor aan laga warhayn inuu ka mid yahay kooxda al-shabaab ayaa ka mid ahaa wariyaal imaan jiray wasaaradda warfaafinta soomaaliya si ay u helaan wararka dowladda soomaaliya waxaana uu ismaaciil istiila si joogtaa u gudbin jiray xogta ah in sheekh nuur abkey uu u shaqeeyo wasaaradda warfaafinta maadaama uusan ahayn sheekh nuur wariye codkiisa la maqlo oo adkayd in la ogaado doorka uu ka ciyaarayay warbaahinta qaranka xasan xanafi oo ay si fiican isku yaqaaneen sheekh nuur abkey ayaa isku dubariday qaabka loo qaarajin lahaa abkey wuxuuna fadhiistay wadamar inuu ahayd abkey oo aan qabin tuhun in la beegsanayo si caadiyana maalin kasta hal wadda uu isticmaali jiray waxa uu arkay abkey xasan xanafi iyo nin kale oo wada fadhiya meel kadibna waxa uu kula leexday salaan isagoo aan cabsi ka qabin in xanafi dilayo kadibna wuu iska gudbay sheekh nuur abkey xasan xanafina waxa uu ka daba diray abkey ninkii la fadhiyey sheekh nuur hadda soo noqon maayo sheekh nuur dilkiisana qaybaan ka lahaa gacantayda aan ku dilin laakiin sababkeedaan lahaa sheekh nuur maxamed abkey gacantayda anaa ku qabtay أنا قاري كاتجي أنا قعنتي كقبتي حقيت كقبتي إفك حلا سكوسك إفك حلا كقبتي محو صارنا قاري عاسي وصارنا سوق حلو صعود شغنور روحان كدلي وحاي هاد إن وكشقينا هذه مقدشو وهاي المركز إذا عدى الشقيسة دولة فتراك الصومالي هذا تلفزيون يمد هولا بدنا جرت لك هذه مقدشو مركز هاد هذه مقدشو إنه ترسنيتر أم ترجمان وها أيان هلا حكتو هذا إن إسماعيل صلاة قوليت ستيلا أو هذا إسماعيل يرى لبحي ayaana isiiyey inuu u shaqeeyay halkan sidaas darteed anoo masaajidka Abu Hurayra bakaara fadhiyo shaah cabayo ayuu sheekh nuur soo maray uu islaamay uu i hormaray marna waa farxay marna waa naxay mar waa farxay ninka aan arkay oo aan ka aaminsanaa murtad inuu yahay ku farxay marna waa naxay ninka la dili doono in uu yahay nin aan aqaano na waa ka naxay xaqiiqdii markaan ka waran wiil aan ila socday oo meesha ila fadhiyaan waxa ay raac ninkaas lugta meesha u dhiga la dhig suuq xooluhu degnaa suuq xoolana shabaab maamulay deeto sheekh nuur sidaan ku daba kacnay yarkii waxa ay baawrac samoodatid haa uu ila wata la raacan ku ila socbaawarka sheekh nuur cabaaro ii jiray anna waa ka dambeeyay sheekh nuur ma qabin dhagar ah dilkiisa in aniga wax ka abaabul doono ama in aniga soo daba socdo ama in aniga ninka soo daba dir ma aaminsaneen wiilka aan soo daba dirane ma yaqaano soo ninkan waa iska daba socday baar wuxuu jaam ay tageen oo aad loo buuxo baarta soo xoolaa baarta afgooy baarta saas la isugu buuxo la isku dilayo wala joogo wiilka aniguna meesha saa masaajidka xareed isbitaalka dhinaca uga dhaganay isbitaal xareed in la dhaano mana foomku fadhiisi jiray ayaa waxaan ku arkay yaxay buurkaas waxaan u sheegay sheekh nuur abkey asuu saas miyaa warwaada bakacayna gaari zuuka ah oo aan watay ayaa waxaan watay gaari zuuka ah ayaan ka soo daba baxay gaari zuukaan ka daba qaadanay waa la joogna sheekh nuur caasi raaceen caasi wiilka ila socdana uu la raacay soo wiilkii isla waxayna inta uu leeyahay amniga markaas haystaa la wacay asayna wuxuu yiri waa idin imaanaa isbartiiba ku haaya isbartiibaan ku haynay deeto maxaan ku raadiyay wiilkii aan waxay ifka xal ugu dagaa irbaawrka waayo deeto baawr BL ah waa dareemi kartaa intii church la yiri waxa uu sameeyo baawrku darawalku waxa weeye waxa ugu horeeya inuu break qabto uu qabto uu ku joojiyay أنا سود دقي ننكلو اللي يرادو داير مع داير عيسى اللي يرادو وصدح له يقارع مع الكافي هي جد كسيق هذا الناي أو هوتيل بيس هي كسيق هذا أو محن كل ديري دور أصلا so labadena ani iyo saddex wada degnay deeto maxaan ku raada waan wada shaqnoor ana aqaanin ninka kalamuun aqoon ana la soo degay baawrka ana saartay dadku way yaabeen baawr miyaaradiisu xiran yihiin oo benzal ah waxaan ku raada baawrkii ku horgooyay niman indhe xiran ay ka soo deen cimaamado wato iyo bistoolado dadku xooga la yaabay ku noqotay hal nima hadana kala baxay wili xataa wuxuu saarnaa caasi dhinac uu ka furnaamay dhinac kale ayuu saarnaa dhinac kale furay ana la soo degay baawrka ma 5 kun ku saarnaa 5 kun ana dhiibay waa is wada raacnay soo dhinaca waxaan u wada ifka oo ifka xaran dhinaceeda oo waxaan u wada gubta xigto baawrka markuu dhaafo baawrkii marqay waa socodsiinay markaan mareen isbuunyada oranay dalsan meesha oomada dalsan meeshaan marayno isma ifka xaran marka laga dhamaado ah soo kala wareegnay baawrkana ku soo qaadanay isbartiibaan galay isbartiibaan maqrib ku tukanay anaa la hadlayay anaa wareysanayay ima fahamsan in anaga wareysanay shaarkiisa anaa ugu xirnay shaqnoor daawud anoo yimid oo amniga ah markaas daawudku wuxuu yiri guriga uu degan yahay guriga aan deganahay niyahow
waxaan ku raahdaa ishaag waa isku dhagan yihiin mana ka malaysanayn ninka inuu meesha ku shaqaynayo daawudkii warka ka xaqiijiyay intee lagu dilaa timid Sheekh Nuur intee lagu dilaa si shabaab isaga fogay eedda waxaa soo baxday in lagu dilo meel xisbul islaam oo xasdaan aweyso markaas hogaamiye u ahay difaacooda in lagu dilo oo geed jecel ahayd markii la dilay Sheekh Nuur Abkay kadib waxay Xasan Xanafi iyo Ismaaciil Stilla siyaabo kala gooni u soo waceen wariye Bashiir Khaliif Gaani oo u sheegteen inay iyagu dileen Sheekh Nuur Abkay bal ila dhagaysta codadkii uu xilligaasi duubay wariye Gaani oo aan ku hormarayo codka Stilla kadibna Xasan Xanafi adiga iyo wax la mid oo kale saas oo kale inaan u bireen rabo saas oo kale inaan midda kaga maryaa rabo murtadi bax adiga naaga murtadiinta oo meesha inuu joogay kuwa kale wixii murtadiina dhan waa la dilayaa adiga laftiga waa lagu dilaa murtadi oo qaayinka madaxaan laga jaray ilaahay ku dhaartay haddaan ku qabto jiro madaxa ka jarin islaamnimada aan sheeganay dhab ma haddaan ku qabto dad toobad oo inta uu qoray idaacaddeena markii uga sheekeeyay Xasan Xanafi sida ay u dileen Sheekh Nuur Abkay ayaan isku raacnay goobtii ay kala degeen baabuurka halkan waa isgoyska ifka xalane oo ku dhow garoonka ciyaaraha Stadiyo Muqdisho waxa uu Xasan oo wata gaari yar kala degay bartan Sheekh Nuur Abkay gaari caasi ah kadibna waxa uu la tagay garoonka Stadiyo Muqdisho oo in xabaara uu ku hayay ugu dambeyntiina waxay geeyeen meel u dhow hoteelka Daame ee degmada Wardhiigley waa kan Xasan oo dul geeyay goobtii ay ku dileen Sheekh Nuur Abkay sharaxayana sida ay wax u dhaceen halkaan ahayd geedkaana ku yaala barta halkaasaan gaariga soo dhigay halkaana la fadhiisay Sheekh Nuur halkaasaan maxaan ku raadayay isha lagu toogtay meedkiisa sidaan ayuu u dhacay halkan ayaana ka tagnay qiyaastii imisa xabaa lagu dhuftay 3 xabo 3 xabiyaa ku kala dhuftay waxa ku kala dhuftay leeyahay xibuur in leeyahay macaldaar ciise oo 3 nooc ay isticmaaleen makaaro ay xagee uga dhuftay madaxa hay 3 xabo madaxii ugu dhacday hatta faniinka waxay yimid gaariga ana waday halka laamiga laga soo leexanayaan joogay waxay igu yiraahdeen hatta maskaxda faniinkeeda ayuu soo gaartay ay igu yimaadeen gaariga waana gaariga bartaasan ku wada Xasan ma jecla sidoo uu xanuunka u dareensiiyay Sheekh Nuur Abkay in loo dareensiyo taas bedelkeedana waxa uu caruurtii iyo xaaskii Sheekh Nuur Abkay weydiisanayaa inay cafiyaan isagoo ku doodaya inuu diya ka bixin doono dilkaasi haddii dawladda Soomaaliya ay cafiso ayladiisii inay daawanayaan waxaan anigu biliif gareysanahay oo aan aaminsanahay ayba tahayba soo haddii ay jirto عفين جودو لا يفيدين كره إلا عفيه هدي إن جرنا وحق شيء وجرا إن شيخ نور ويران حتى أن عدي سلا تعامله ويران حتى دي أن كديبه هدي نعفيه كل شيء أنت سواها maxamed ibraahim raage oo ka tirsanaa SNTV waxaa lagu dilay degmada Dharkiinley isagoo ay cunugtiisu dhabta u saaran tahay fadhiyana albaabka gurigiisa waxaana uu ka mid ahaa maxamed ibraahim wariyaal la saarnaa gaariga Xasan Xanafi markii uu diyaarinayay shirqoolka Cali Iimaan laakiin aan dareemin hawsha uu wado maadaama uu ku hadlayay eraya afgarasho waxaan ku irwaalay la saaray rag guriyaal la saarnaa oo ka mid ah maxamed ibraahim raagi hadda dhintay dilka maxamed ibraahim markuu dhacay daqiiqada kadib waxa uu Xasan Xanafi soo wacay Cabdiraxmaan Yuusuf Cadaala oo ka mid ah mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta oo uu sheegtay inay iyagu dileen maxamed ibraahim raage raadalo waran soo fiican halkayga waran halkaygu waa maxaa ka soo galay maanta wuxuu iga soo galay sultaanka kala shaqaysanayno dad kala shaqaysan sultaan mahay haddee shaqada idinka idinku dambeyso meel xun idinla tagtay maxaa wadaa maxamed ibraahim raage nin rag oo dalkiisa dadkiisa u jihaaday oo u dhintay waayo isagoo khawaarijta idinkoo kaleeta la dagaalamaye waan gartay adigu haddana waxaad ii soo wacday inaad ku faraxsan tahay soo maha wax kale waxaan kaloo qabtaa beenaa waxaas ku soo waclay shaqadeeda dhanba tahay sataan tiimka kale ka soo jeedo wala doqonnima idin haysa laakiin waxaad ogaataa qofka dishaan qofka walaalkiisa bedeli doona iyo xaaskiisa iyo maaragtay dad haysatiin inuu dhib idinka haran yahay dhib ka weyna idinka kordhi doona isaguna isoo ku dhinto isagoo muslim oo maqrib maaragtay salaad maqrib uu heesa qaatoo dhintay idinkaana xisaabteedana idinka ajaabka gasho doontiin waxna idinma kordhin doonto marka
weligiinba ku faana ina ilaahay ugu dhawaanaya xisaabtiisa aakhira noola haysaadana ilaahay umaada dhawaana waa ka fogaatay mujrim ilaahay ka fogaado dhiigga dadka cabaad mataa meelna kuma gaari doonto waa arkayna koodhe aniga ku sheegay dhowr mar hore wadadaas dadka miisana ku dambeey doosid haddana waa kugu celinaa marnaa jaanis kale kusuuna koodhe ilaahay ayaa usoo butay oo ku sheegay waxaad ogaataa wallahi waxaan niyad adayg iyo geesinimada inaanan ka qaadaynin qof kasta oo meeshaan ka baxana qof walaalkiis iyo hooyadiis iyo aabihiis iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa bedeli doona ilaa qofka idinkugu dambeeyo oo idinka dhinto oo idinka iyo kuwa idin lamidka ah أنا واشي لا مجرمين من شهيدين ولا تقولوا لم يكن في سبيل أمانة بالعيال عند ربي ولكن لا يشعرون قرآن كإلهي أو قفل واحد قرآن ما تغنين بال الجوجويا الذين أخرياه قرآن كإلهي أو قفل قيبة يريرو لسوق جوجويا فسراب قلنا لجوجو تسمع قرآن ما تقرآن يدين ما تغنين أدنى وقعنا لكن waxaad ogaataa adiga hadda wax badan oo kaala hadlo ma garanayo laakiin kuwa ku soo diran oo sheeg aad ma ogow geeda maxamed ibraahim raage iyo kuwa ka horeeyay iyo kuwa ka dambeey doona xoog iyo awoodda radio muqdisho iyo SNTC kordhi doonta laakiin wallahi maalin aan hoos dhigi doonin maalin kastana hadalkii shalay ku dhacay mid ka adiga ay ku sii dhici doona taas ku tashada yoom ilaayama waxa iska warsan doonaa waxa aad sameynayso waxa aad hadda inaad sameynayso amisanta hadday khayr ku tahay aniga shalay ugu aaminsanahay يوم الأيام أذكر صدقنا صاحب ما أنكر هذا الشيء ومرت كله عن قوة لنا إلهي أتوب بتكنته حتى أتوب بتكنه والله وعن هذا وحبا يا صاحبك هذا الفريق المسلم كاهد إلى وضوء في كل صاحب ما قرأت لا أنا نكن عنك لا قبته لا صوب اللي يقول اليوم ولا وهذه لكن إلهي يدعون قوة وسواء نزل وهذا النتيجة تسمى كفانا أنا السوء horta col iyo cadaawo cusub oo idinku kordhin doonaa adigana meel xun oo aad ka shalayso kuula dabayn doonaa adduun iyo aakhiraba taas ogow marka anigu hadda adiga cilmiga wuxuu igu sheegtaba kuguma aqaana aniga adiga waad naqaanaa rag saaxiib ahayna isla soo shaqayn jiray laakiin waa qalloocatay meel aad u leexatay iimaankii diintiga kaa xumaatay qiyaamaha noo balana ninkii qalloocay waaya qiyaamadaasoo noo balala milki joogayo inkastoo codkan laga hayo xasan xanafi haddana markan wuu iska bari yeelay inuu wax ka ogaa dilka maxamed ibraahim raage wuxuuse sheegtay inuu ku qanacsanaa siday wax u dhaceen ibraahim raage aad u weynaa ugu qanacsanaa weli xataa anigu waxaan ku ogaa inuu joogay meel layaa kambala oo jaamacad u aadayaan ogaa wariye nasteex daahir faarax waxa uu ahaa wakiil wareedkii BBC iyo wakaaladda wararka AB waxaa lagu dilay magaalada Kismaayo waxa uu ka mid ahaa xasan xanafi xubniye ka tirsanaa al-shabaab ee wax ka abaabulay dilka nasteex daahir faarax waxaana uu sharaxayaa sababtii ay u dileen nasteex daahir faarax wakiil wareed BBC Kismaayo ayuu ahaa al-shabaabna goorta la dilayay waxaan u malaynayaa inaynan galin gudaha magaalada Kismaayo oo uu maamulayay Colonel Barra Aadan Shira Barhiiraale ciidamo taabacsan ay joogeen magaalada Kismaayo ayna toos u galin al-shabaab soo nasteex sababka lagu dilo waxay ahayd al-shabaab waxay abaabulayeen qorshihii ay ku gali lahaayeen magaalada Kismaayo ee magaalo xeebeedda ah si dekadooda dhaqaalaha ka soo galay ay gacantooda ugu soo dhacdo soo nasteexna maadaama wakiil wareed idaacad international uu yahay waxa uu tabinayo waxa ay tahay dagaalka inta uu socdo si dagaalku macluumaadda ay ugu yaraato ama lookalada bas suuriyaasha ka shaqeeya ay u tabin karaan ayaa loo dilay nasteex waxa dilna waa al-shabaab laakiin fatwada waxaa dhiibay nin la yiraahdo Ibraahim Jaamac Miicaad Ibraahim Afqaan oo Abubakar Saylici isku magacaabi jiray xasan xanafi waxa uu sidoo kale wax ka ogaa dilkii agaasimihii Shabeelle Xasan Fantastic oo lagu dilay degmada Wadajir waxaana uu xasan sheeganayaa inuu la socdo hawshaasi ka hor intii aysan dhicin iyo kadib markii ay dhacday intaba حسن عثمان فانتاستيك أقاسمه راديو الشبيلة إنه هايان رجينيا واحد دلي وحيا هايان الشباب مركز كهرنا جورجيس إيريس أيا لسوس سهمي وحنا اللي هو رجليه إن اللي دلي دونه حسن فانتاستيك ساسو أي تهينا
xasan fataasti waa la dilay wariyaal badan ayaa lagu dilay Soomaaliya waxayna ka midaysan yihiin badankood in qaabab isku eg loo dilay waana habka dhagarta ay wax u dilaan kooxda al-shabaab xasan xanafina waxa uu mas'uul uga ahaa kooxdaasi hawshaasi dilalka wariyaasha inkastoo markan uu dilalka wariyaasha badankood inkirayo iskuna muujinayo in qaybta uu ku lahaa ay ahayd oo kaliya inuu soo xaqiijiyo geeridooda waa kan isagoo markan dul istaagaya dilalka wariyaal ay ka mid yihiin yuusuf kaynaan axmed cadow canshuur maxamed maxamuud timacade cabdixareed aadan cusmaan xasan yuusuf absiga yuusuf cali cusmaan yuusuf farey iyo wariyaal kale yuusuf axmed abukar yuusuf kaynaan magaciisa istaxinno saayaan rajaynaya goortii la dilay horta cabdicasiis anigu waxaan joogay magaalada Nairobi caasimadda waddanka Kenya xogta aan hayay Yunus soo siinayna waxa ay ahayd in Yusuf la dilay sababta loo dilay anigu waa wareejiyay Yunus wuxuuna ii sheegay in uu u shaqeynayay idaacadda Ergo oo uu u sheegay markaas inay tahay idaacad ay qaramada midoobay leedahay isla markaana uu ahaa tifaftiraha idaacadda Mustaqbal oo ah idaacad local ah oo ku taalay magaalada Muqdisho sababtaas ayaa ugu weyn soo ii sheegay wuxuuna kaloo ii sheegay in uu ahaa murtad waa sida uu warka u dhigay murtadiinta Soomaaliya ka mid ah oo goobta ka baxay goob uu dhiganayay baabuurka in xogteeda la diyaariyay lala tacaamulay dadkii ka ag dhawaa goobta sidaasna ugu suura gashay in ragga ministeyaasha al-shabaab ay ugu xiraan baabuurka Yuusuf Kaynaan hoosta goobta uu fadhiyo inuu darawal ahaa la ii sheegay ay ugu xiraan dabadeetana way fushay Yuusuf markuu gurigiisa ka soo dhaqaaqay gaarigii uu soo watayna eereeda xamrooyin inay ahayd ayaa la ii sheegay goobta lagu qarxiyay macalinkii uu ahay Allah ilaahay xasan Yuusuf Absuge idaacadda maanta idaacad la yiraahdo iga dambeeyay inuu la shaqeynayo waa la ii sheegay in dadkii dilayna TV aan ka daawaday ruux axadkii dilay kamid ah xuduudiisa kamid ah oo booliis oo dhiiglay isla booliisku dhiiglay inaan ku wareysatay ila ahayd aad soo wareysatay xasan ninkii dilay hadeeba ahayd xaqiiqo maanta caawaqab xumadiisa uu haya laakiin waxaan horena kugu sheegay kugu celinay ay journalist ama ay wariye ku sugan Muqdisho al-shabaab xaqooda waa ka xukumaya dilowna uu xukumaya maalkiisa iyo naftiisana waa u banaanta Yuusuf Cali Ismaan Yuusuf Farey macalinkaygu ahaa ilmo kuwiisana inaan macallin oo ahaa u malaynaya ilmo kuwiisana waa isna qaar isla shaqeeyno xasan Yuusuf Cali Ismaan xasan Arab hadda idaacadda Risaale inuu joogo ama irbaahinta qarankana waa ku ogaa mar waa suuragal inuu joogo waxaasoo dhan waxaan ku ogaa lama arko laakiin waxaan aaminsanahay in al-shabaab dilay Axmed Cadow Canshuur waxaan xasuusanayaa markii aan maqlo barnaamijka Shabeelle ka baxa qubanaha Shabeelle oo aad u wadi jiray waxaan rajaynayaa in lagu dilay degmada Madiina sanadii 2012 xaqiiqdii umuhuba ilaa 12 meelaha mid u bay ahayd Axmed Cadow Canshuur waxa xaqiijinayaa inay al-shabaab dileen waxa loo dilay inay ahayd barnaamijkaas uu waday idaacadda uu ka shaqeynay oo ay u ictiraafsan yihiin idaacad murtadiin inay tahay anigu waxa soo wacay Axmed Cadow Canshuur ka hor markii la dilay kadib aan iraahdee nin la yiraahdo Macalin Daahir Ciise oo saddex loo yaqaano ninkaas ayaan igu yiri ninkaas ayaan dilnay hawshiisana waa kaasa xog ka keen dabadeeto waxaan u maleynayaa rag guriyaal ah oo adigaba aad ka mid ahayd inaan soo wacay in ay xaqiijiyeen geerida Axmed Cadow Canshuur timacade unfortunately Shabeelle ayuu ka shaqeynayay ka hor hadda markii la dilay wuxuu shaqeynayay Universal TV Shabeelle way ka soo guurtay dhismihii Bakaaro xilli habeen ah oo ay soo raratay alaabkeedii iyadoo xataa qaar ka mid ah shaqaalaheedii uga soo tagtay goobta ay ku sugnaayeen kadib markii albaabada ku xireen maalmaha ka mid ah isla Daahir Ciise soo wacay wuxuu ninkii afwan waxa soo wacay Yunus ninkii timacada ahaa waa la kala tuuray waxaan ku raadayay isha arinkaas soo xuraanso ugu yiri waxaan ku iri ma idaacadii uu ku noqday wuxuu ugu yiri maya idaacadii kumuuna noqonin
idaacadda universal oo markaas ka hor al-shabaab ay iska mamnuuceen dhiigooda iyo maalkooda way banaystaa calleer ayaa si toosa u yiri tv-gaas u shaqeynay ugu yiri dabeeto waxaan wacay gabadhii uu qabay timcade waxaan ku iray balwaran waxay tiri waa baxiyey cabdixaraad cusmaan aadan si ahaana isku xaafad baan ahayn saaxiibana waan ahayn shabeellana waa u shaqaynayay waana la dilay subax aroor jimca inay ahayd ayaan rajaynayaa ama subax khamiisaad midkood inay ahayd ayaan rajaynayaa soo ay dariiq cabdixaraad cusmaan aadan waxaan xaqiijinayaa in ay al-shabaab dileen sababka loo dilayna waxa uu ahaa inuu ka shaqaynayo idaacad ay iyagu aaminsan yihiin inay tahay idaacad gaalo oo ay qolo murtadiin leh cabdimaalig yuusuf oo ah mulkiilaha shabeelle ahna guddoomiyaha shabeelle iyagu waxaa ka dhadhacsan axad murtad inuu yahay xarakatu shaydaan wejiga soo xirtay xayadii laga qaadee ilaahay xarigiisiyo xasidiin ka fogbaa xasuqoo dadka laayo xinjirtooda ku dhaashtee allaha u naxariistay wariye xasan yuusuf absuge oo ka tirsanaa idaacadda maanta ee magaalada muqdisho waxaa lagu dilay meel u dhow isgoyska siinaay ee magaalada muqdisho xilli uu ka soo baxay howl maalmeedkiisa waxayna dilka allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge maalin ka dambaysay qarax si wadar ah loogu dilay wariyaal iyo dad shacaba guriga hooyooyinka ee magaalada muqdisho waxaana goobtaasi dadkii lagu dilay ka mid ahaa allah u naxariistay madaxii wararka telefishinka qaranka SN TV liibaan cali nuur madaxii barnaamijyada SN TV allah u naxariistay cabdisitaar daahir sabriye iyo sidoo kale agaasimihii idaacadda VOD ee maxalliga ahayd cabdiraxmaan yaasiin qaraxaasi iyo weerarkaasi shirqoolka ee lagu dilay xasan yuusuf absuge oo maalin kala dambeeyey waxaa intaba mas-uul ka ahaa oo sheegtay kooxda ugus ekis al-shabaab daqiiqado yar kadib markii la dilay allaha u naxariistay xasan yuusuf absuge ayuu telefoonka gacanta kula soo xiriiray xasan xanafi oo kooxda ugus ka tirsan wariye cabdiraxmaan yuusuf al cadaala isagoo u sheeganaya dilka absuge iyo kuwii ka horreeyeyba markii allaha u naxariistay xasan absuge la dilay maalintii liibaan iyo ay dhinteen ay cabdisataar maalintii ku xigtay oo xasan absuge ay dileen ayuu soo wacay anoo barxadda wasaaradda fadhiyo markaas uu maqlay wax yar 5 daqiiqo 6 daqiiqo ka hor dhimashada xasan absuge markaas wuxuu ugu dhahay hadda shalana waxaan idinku sameynay waa ogtihiin maantana waa kaasa sidaas hadalla ahoo jees ahoo maaragtay uu ku faraxsan yahay inuu dilkaas ka dambeeyo halo cadaala حسن سيطة وافعنا يورا وافعنا الحمد لله هاي جو عالي حتى يوسف أمسك ووضع وكورة إلى صومها ما يلمس هذا ما حاكو دعي أيوة يا ميت في سماشي هذا كسر قاطع زي الدعوة اللي هذه على كمين شاينا وكل اللي راح النور وعبستار وطيل عناي كل يمكن ماشي في ميل كل كل كنت بنت تنبأ إلى توجد كين هذا والله ما الحين هذا قدام بيد وأنا ما لنا ما تأهينا نكتب واجب وأنت مركا ديوان يا عدتان إن من مارك تنتهيين وتلك ولو تنتهيين قف كذا وقت يسوق كل لكن وحرجينا ما لنا عدالة دور ما تنتهي كجواب ما لنا ما انتهينا هذا كجواب وأنت هذه عدالة دينا أنت عدالة رجل ماشى كويدا وأسألكنا إن شاء الله لا تعاود ماشي في الكل سلاسل سكلي تنمية كردين إن شاء الله هذا يوم جايين يا دام وأنا وأسألكنا
qoladii u dambaysa meel xun waa arki doontiin dadkaas waxay u dhinteen waa naqaanaa laakiin idinkaan aqoonin waxaad u dhimateen meel xunna ku dambayn doonaa marka waa isla joognaa ninkii meel xun ku dambeeya waa la arki doonaa saaxib waa arkaynaa saaxib waa arkaynaa haddii meel fiican waxaan ku dhimanayna aanan aqoon idinka aa taqaaniin waxaan naga baabiin kartaan waa is arkaynaa insha allah saaxib okay waa arki doonaa meesha ku dambaysa dilalka wariyaashu waxay cabsiya baqdin ku abuurtay saxafiyiin badan oo awoodi waaye inay sii wadaan shaqooyinkay u hayeen bulshada waxayna u carareen dalalka dariska laha Soomaaliya qaar kamida wariyaashaasi oo qaxooti ku ah Uganda ayaa ka waramaya waxa ay ka soo carareen duruufihii aan Soomaaliya uga soo baxay qof kasta oo suxufi ah ama wax garad ama aqoon-yahan ah waa miduu ka dharagsan yahay dhibaatooyin iska muuqda jira dilalka wariyaasha lagu hayay kamid ahaa markii aan shaqo joojin sameynay aniga iyo rag kale oo hadda raadiyo Muqdisho joogo iyo kuwa kale ku sugan dalkan Uganda dilkii Hiraabe iyo afduubkii JK agaasimihi Universal iyo dhaawacii Axmed Taajir waxay ahayd dhacdo su'aal ku keentay shaqada saxaafadda dhexdhexaadka ah inay jiri karto in kale 13 bishii December 2008 ayaa ugu dambeysay magaalada Muqdisho أنا مركا وشغلني تلفزيون كعالمي يونيفرسال ظروفي وكلفي إن أنا ودن ككسو على وحي هيد كدب مركي عن مري ودد مكة المكرمة دقيقة كور وأن تجي حرونتي أن تلفزيون كمكة سكوتي اللي وتلك عم بشتر نعس الدنباء أي قرح كدعي ودد هل كاسو هوين ودد النظيفين يي وحكير $2 وعنتك بدل شقة كل شقينا يمينه هالكاس لو قد كوكر حد إلا إنك بدلنا عتنها وينه هي هالكا كوكريوتي كنت ميانا ويكون عامين هالكاس أيام 40 كسو تبيي kasokow wariyaasha la dilay waxaa jiray wariyaal kale oo la dhaawacay kuwaas oo ay ka mid ahaayeen wariye Maxamed Shariif wariye Muxidiin Xusni iyo wariye Xasan Matore waxa uu Xasan ka sheekeynayaa wuxuu ka ogaa weeraradii lagu dhaawacay wariyaashan Maxamed Shariif hadda wuxuu shaqeeyaa raadiyo barkulan ayaan rajaynayaa raadiyo barkulan al-shabaab waxay aaminsan yihiin waxa ay tahay in ay leedahay ciidamada African Mission in Somalia ama AMISOM marka la soo gaabiyo loo yaqaano nin la yiraahdo Aadan Gaal Dile ayaa soo wacay asaguna ugu yiri Maxamed Shariif iyo nin la yiraahdo nin Shabeel asagana u shaqeynay oo hadda ugu soo warama magaalada Baydhabo magaciisa Agjool hadda ma xasuusto oo la dhaawacay asaguna oo reer Baydhabo ahaa labadaasba waxay soo wacay Aadan Gaal Dile محسن حسني يا معدين حسني labadaas ban ninka leeyahay Aadan Gaal Dile ayaa soo wacay iyana sheegay Xasan Matore warbaahinta qaranka ayuu u shaqeeyaa ayaan rajaynayaa wakiil wareed markaas uma shaqeynaynin laakiin hadda inuu u shaqeeyaan mar soo warar ana daawanay TV-ga qaranka la soo deeyaan arkay soo deynaya waxa xaqiiqo ah in ay al-shabaab dileen sababka ay ku dileenna waxaan ku xaqiijinayaa in ay tahay in uu murtad yahay xabada ay ugu fureen oo bistoolad xabadu waxay rabeen dhinaca wadnaha inay kaga dhuftaan ilaahay iga badbaadiyay oo naaska korkiisa kaga dhacday kadib dhulka ku dhacay markaas sidaas u fiiriyay laba cunug oo aad u tabar yar oo adii markaas labadoodaba madaxa iga xanuunay sida ay u egiyeen iyo waxa ay dabacsan yihiin ayaa markaas hal mar inaan mid kamid ah ku booda bistoolada la qabsaday adoo dhiigii gadaayo daqiiqad intaana fidhin gaariga xabadaha igu dhufan doona guriga meel banaankiisa ah yaallay yarkii macalinka wuxuu su'aalay warbalaago gaarigan ma gaarigii saaxiibaha yarka ahaydeen uu wadan jirayaa gaarigan fiiriyay waxa iriniyo ma gaarigan waa duug kaasina waa cusub yahay gaarigii kolle gaari aniga raadinayo ahaa markii aan wajiga u dhameystiray aqoonsaday inaan balaag ahay wuu dhaqaaqay qadar daqiiqada ah ka bacdi anoo sheekadii ku mashquulsanaa waxaan ka war helay bareeg la igu qabtay iyo xabad igu socota haddaan fiirshay gaariga holac qori afkiisa holaciisaan dareemay iyo dhawaqii rasaasta iyo derbigii aan fadhiyay ugu soo dumaaya xabad kama tagaanahay xaadir suxuufiyaanahay xadna kama baqaanahay xigmad ururiyaanahay xoqayntii warkaanahay xabad kama tagaanahay حاضر صحوفي أنا هاي حتى
xadna kama baqaanahay xikmad ururiyaanahay xoghayntii warkaanahay tacadiyada ay warbaahintu ku hayaan al-shabaab kuma eka oo keliya dilalka wariyaasha ee waxay sidoo kale xoog ku qaateen qaar ka mida qalabka ay ku shaqaynayeen idaacadaha muqdisho sida IQK, Soomaali Weyn, Horn Africa, Capital Voice, BBC, Warsan Baydhabo iyo idaacado kale oo ku yaala gobolada dalka. waxaana xasan xanafi uu ka mid ahaa xubnihii al-shabaab ay u soo direen in idaacadahan ay biliilqaystaan. xaqiiqiyan anu waxaan u hayaa idaacadda ah Horn Africa, warbaahinta Horn Africa Capital iyo Horn Africa isku wadatay iyo idaacadda Soomaali Weyn. waxaa kaloo hubaa inay jirto idaacad ku taalay Sanca iyo Radio Banaadir, isgoyska Sanca iyo Radio Banaadir inta ka dhaxayda oo laga qaatay alaab ay ka tagtay markaas idaacad ka guurtay meesha oo Maxamed Carab oo hadda Yurub inuu jiro la ii sheegay uu ka shaqeynayay idaacadda Agjooda magaceeda si rasmi ah uma hayo. idaacadaasna qalab ay ka tagtay oo u badnaa qalab xafiiseed in ay qaadatay lagu dayactiray Radio Andalus Ceelbuur ayaan hubaa xaruntii labaad oo markaas xaruntii saddexaad bay labaad ay saddexaad oo Ceelbuur laga dhigay lagu dayactiray laguna furay ismihii ameelada FMT Soomaali Weyn laga qaatay. BBC-na fatwo ayaa lagu qaatay si guud fatwo soo baxday oo badana uu soo bixiyay amarkiisa lagu qaatay ay xarumo badanayna BBC-du lahayd xataa xaruntii dambe ugu dambeysay waxaan ugu daba tagnay meesha la yiraahdo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waa ugu daba tagnay oo xataa raga loo xirxiray la ajligeed dabadeetana waan helnay. markii ay dhacday intaasoo biliilqa ah waxay idaacadaha qaarkood bilaabeen inay si dhuumaalaysi ah kaga soo guuraan goobaha ay al-shabaab ka talinayeen. waxaana ka mid ahaa idaacadihii sida dhuumaalaysiga ku soo guuray idaacadda Shabeelle ee Muqdisho. maalmaha ka mida ayaa waxay soo wacay ninkan maanta gacanta amniga ku jira ee Xanafi wuxuu yiri waxaan fadhiyaa goorow baar bulsho ee igu imaad. baar bulshona waxay ahayd xaruntii Shabeelle degan tahay markaas maqaayad u dhow ay ahayd. waan u tagay oo amarka laba diidi karin asagoo qol dhex fadhiya oo TV-ga Al Jazeera fiirsanaya oo aad u qabto inuu TV-ga shaashada madaxa la sii gelayo. markaan u imidna wuxuu ugu yiri haddii alla ku roon yahay maanta waxaan dhageystay warkiina idaacadda gabadha akhrinaysay gooro waad ogtahay in gabdhaha codkooda uu dambi yahay marka waxaan rabaa inaad joojisiin haddii alla ku roon yahay gabdhaha wararka akhriya. marka uu sidaas leeyahay wuxuu fiirsanayaa gabar haddii alla ku roon TV aan rabin hadda inaan magaciisa sheego warka akhrinaysa oo makrofonku meesha uu xiran yahay qaybta kore xabadkeedu uu muuqdo madaxeeda iyo jirkeeda kalena uu bannaan yahay oo warka akhrinaysa TV ayuu fiirsanayaa oo TV-yada afka carabiga ku hadla kamida. aniga hal maraan carooday nin fiirsanaya gabar qaawan oo war akhrinaysa mid uu codkeeda maqlana igu haysta. waxaan iri gabadha carbeed ee cawradeeda banaysa waa adiga calmaday oo TV-ga caasha geliye ma Soomaalida la calowdo codkooda ku dhibay. wuxuu ugu yiri risaaladii xambaarsantahay rabaa maahan anigu codkeeda muuqaalkeeda dan kamali midda aad dhageysatay risaaladeeda qaadaan iridana waa ka baxay. markaan baxay xarunteydii aan tagay ayuu ii soo dhacay teleefankiisu wuxuu ugu yiri intaad iga soo maqnaad mujaahidiintu waa ka tashadeen go'aanna waa laga gaaray berri 6 saac ayuu waqtiga ku egi. waxaan ku yiri ilaahay adoomada shasha waa ka qariyay yaa ku siiyay awood adigu aad ku ogaatay. marka maalintaas ayaa waxaan go'aan ku qaatay inaan ka guuro haddii alla ku roon yahay Bakaaraha. 3 bilood ayaan dib u sii deganay hase yeeshee 3 bilood maalin bashaay ayaan qaadayay. dadku waxay u maleeyaan idaacadaas inay hal habeen soo guurtay. ma soo guuray hal habeen muddo 3 bilood ayaan maalinba hal shay qaaday. habeenkii u dambeeyay inta u dambeysay oo haddii alla ku roon yahay maksarkii iyo FM-kii iyo firdhisadii iyo inta hawada ku jirtay baan soo qaaday maahane wax kale oo alaabuhu ma isaalin markaas. iyadoona tallaabada ay Shabeelle ku soo guurtay ay carab ku abuurtay horjoogayaasha al-shabaab waa kan Axmed Cali Gees oo ka mid ahaa horjoogayaashii waqtigaasi al-shabaab oo diinta ka saaray Shabeelle iyo shaqaalaheeda xilli uu telefoon u soo diray Abwaan Guure oo waqtigaasi ahaa agaasimihii Shabeelle. qofku anigu wuxuu aan raayidkiisa ku arkaan ku xukumaa
ma ku degdego waxaan ku leeyahay murtadiinaad tihiin waa noo dagaal waxaad riddada dhinacaas ka marteen sidii riddada idaacadda riddada usoo dhexdhexaadna ma aydin ninka bakaara ka cararaa tahay murtadaa tahay munaafaqa oo saariqa hata anaa kugu xukumay dhulkii muslimkaad isku aamini weyday xeradii gaaradaad gashay oo aadan idaacadda dhexdhexaadeen sida riddada idaacadda riddada inaad u shaqaynaydo waa ilaahay xamdigiis waaye yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicu aladiina kafaruu yaruduukum calaa caqaabikum fatanqalibuu khaasiriina gaaraad adeecday muslimkiina waad ka carartay midda labaad waman yatawallow minkum fa innahu minhum taasaad ku ridowdeen laba mata saddexa fa xukma aljaahiliyati yabquuna waman axsanu xukman liqowmin yuuqinuuna xukun daaquuda oo cilmaani ah ayaad hoos gashay kii muslimkana waa ka carartay yaab lay ahayd barkii xasan cali gees waan qiinay haddii alla ku roon yahay weliba markaas ka hor wuxuu iska dhigi jiray odayaashii midnimada beelaha hawiye inuu ka mid yahay marka hal mar unbuu isbedelay oo ninkii waxaan aragnay haddii alla ku roon yahay maalin kastaba warkii idaacadda ka baxataa duubayo idaacaddii dhitagaraynayo haddii alla ku roon yahay dhegaysanayo saacad noo soo wacayo dhahayo warkaan aad hadda sheegteen sidaasaa loo qaadan karaa war sidii loo qaadan kara iska dhaafa ma yahay marka ninkii hal mar uu isbedelay oo aad u qabto haddii alla ku roon yahay wakiil idaacadaha loo xil saaray iyo kontaroolka iyo waxa ka baxaya ayaan aragnay hanjabaadihiisu ay xad dhaafeen oo xataa isku daya xataa haddii alla ku roon yahay marar badan uu noo soo diray kuwii wax dilayo ilaahay naga badbaadiyey marka sidaasay ahayd joogtay ahayd ilaa aakhirkii si warkoodu uu u dhammaado oo xiriirkeenu toos ugu dhammaado aan gaaro inaan idhaahdo wax kastoo amaraho ay soo saareen maanta wixii ka dambeeya waa joojinay maalintaas ayaan ammaan ka helay intii ka horeysay hanjabaada iyo digdigta iyo dhaarta iyo weerarkuba joogtay ahaayeen kooxda xusbul-islaam iyo al-shabaab oo afkaar ahaan iska agdhowaa ayaa mamnuucay inay idaacadaha sii daayaan shanqaraha astaamaha u ah idaacadaha iyo suugaanta soomaalida waxayna taa beddelkeeda amreen in idaacaduhu ay baahiyaan nashiidooyin carabi ah dhammaan idaacadaha maxalligaahna amarkaasi u hoggaansameen marka laga reebo raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka saxaafadda waxaan amraynaa ama faraynaa amar cadna ku bixinaynaa laga bilaabo 10 beri asiina maanta laga bilaabo 10 beri 10kaas beri wixii ka dambeeyo idaacada waxa rabnaa muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deeynin muustika iyo hees waxa la yiraahdo inaysan sii deeynin waa ognahay idaacado badan oo banaanka joogina aad u carood doonaan oo reer galbeedka oo aad u carood doonaan waa ognahay galabta laga bilaabo beri laga bilaabo idaacado badan qaali doona saxaafadii ayaa la curyaamay halii doona marka curyaamis maahan muustikadaas iyo heesaas islaamka kamid maahan marka waxa rabnaa waxyaalaha wanaagsan oo khayrka inay sii deeysiin tobankaas beri waxa ay deeysiino ma ahna macna munkar isla saaca in la suuliyo wahay laakiin anjalooyinka iyo wixii isku dhex qasnaa ina kala saaratiin rabna laakiin markii la soo gaaray maalmihii xorriyadda Soomaaliya ayay haddana mar kale amar ku bixiyeen kooxahaas inaan la maamuusi karin lagana hadli karin taariikhda maalmahaas waxayna arrintaasi u cuntami weysay agaasimihii waqtigaas ee Shabeelle oo hadda agaasimaha idaacadda kulmiye Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo amray idaacaddii agaasimaha ka ahaa in la saaro heesaha xorriyadda go-aanka hore lagu joojiyey astaamaha idaacadda iyo waxdana asaga ayuu ka soo baxay marka go-aankii ku qaraara ayaa shala ka soo baxay oo ahay lama xusi karo kowda luuliya ama lama sheegi karo ama lama soo hadal qaadi karo midaas oo aan u aragnay mid lagu inkirayo jiritaanka Soomaalida annaguna waxaan nahay saxaafad madax bannaan oo u shaqeysa ummadda Soomaaliyeed sidaa darteed waxaan u aragnay go-aankaas inuusan ahayn mid la fuli karo marka qof aad go-aankiisii fuli weysana kiisii hore ma fuli kartid sidaa darteed go-aamadii ka soo baxay macallixaashi oo aan u aragno kuwo keligii asaga ku kooban inay yihiin waxaan garanay inaanaan fuli karin dhammaantood dhammaan maamul iyo shaqaalaba inta joogta Shabeelle waa ay ku faraxsan tahay go-aanka aan qaadan waa maalin muran iyo makeek mihane waa maalin ilaahay maashee man maalu hashee man maadeeqee maatuudo candani عندي
xasan waxa uu sidoo kale ahaa tifaftiro qarsoon oo warbaahinta muqdisho ay lahayd waxaana uu ku maamulayay idaacadaha maxalliga cagajuglayn joogtaa oo ay barbar socotay inuu qaarajiyo kii ka madax adeyga cagajuglayntaas waxa uu sidoo kale xasan xanafi ku soo xiri jiray idaacadaha goobjoogayaal ka warbixiya meelaha ay wax ka dhacayaan kuwaasoo ka mid ah maleeshiyaadkooda oo iska dhigaya shacab ka agdhow goobtaasi anigu waxa aan sameeyey adigu oo wariye ah waxaa u baahan tahay cid aniga iga madax bannaan oo kuu xaqiijiso waa heli kartaa in fulaan kale ereydii wax aan ka samaynay jooga inaad la xiriirtid waxa uu kuu sheegi karaa xaqiiqda jirta laakiin anigu qof aan rabo waxaa laga yaabaa inuu askari uu yahay askari al-shabaab uu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa in xafiisyadooda ka shaqeeya inuu yahay laga yaabaa waxaa laga yaabaa qof taageersan mabda'ooda inuu yahay laga yaabaa ayaan kugu soo xirayaa qofkaas waxa uu kuu sheegayaa waxa aniga aan rabo dadka marka aad idaacadaha ku xiri jirteen waa dad adinkeeda ka tagtay aad weyn waa lagu baraarugsan yahay runtii waa lay sheegay hay'adaha nabadgelyada oo kale akhbaaraadka aan ka helay waxaa ka mid ah in xogaha laga helay ay ka mid yihiin inuu yidhi maaragtay marka warbaahinta gaarka loo leeyahay qaar ka mida waxaan ku khasabnaa wararka ay sii daynayaan waa u tafatirnaa dadka soo wacaya ee ay codka u furayaan qaarkood aanu ku leenahay influence oo u magacuuna arrintaasi runtii haddee waa ficilada ay doonayaan dadkan nabaddiidka inay ku jahwareeriyaan ummadda soomaaliyeed horta waa ay dhacday oo xataa waxaa jiray kuwo ay iyagu leeyihiin oo ay annaga wariyaal nooga dhigeen xataa dhacday oo waxaa dhacay haddii alla kuro berigii lala dagaalamayay haddii alla kuro yahay muqdisho dagaalku ka socday wiil tooshow la yidhaaho wariye ahoo hadda ayaga ka mida wuxuu noo ahay goobjoogo wararka laga qaato oo jidka warshadaha iyo aagaas wixii ka dhaca haddii alla kuro noo soo sheego ilaa aan kadib ogaanay inuu yahay haddii alla kuro xiban ayaga ka mid ahoo u shaqeeya marka kadibna uuba noqdayba wariye toosoo warbaahintooda ka shaqeey marka waa ay dhacdaa waana joogto weliba waxaa dhaca ayadoo wax dhicin inta lagu soo waco lagu yidhaahdo meeshaas iyo meeshaasaa wax ka dhaceen lagana yaabo meeshaas hal bumbo in lagu tuuray oo hal qof oo lagu dhuftay iyo wax ku dhinta midna aysan jirin marka ayadoon dhicin mararka qaar in lagu soo wargeliyaa dhici jirtay waxaa intii aan ku jirnay diyaarinta barnaamijkan holnay codod fara badan oo xasan xanafi marxalado kala duwan ugu hanjabayay wariyaal gudanaya waajibaadkooda shaqo waa kan mid ka mid ah cododka hanjabaadda ee laga duubay xasan xanafi isagoo wariye u sheegaya inuu dirqi kaga fakaday xilli ay dili rabeen maalinkii muus oo xamarweyne aad dirqi ku fakatay mardaba insha allah ma fakanaysnina ma aha xasan xanafi oo ku jira gacanta nisa waxaan u helnay wakhti badan oo aan kula sheekaysto waxaana xasan intii aan la joogay waxyaabaha iga fajiciya ka mid ahaa inuu i weydiistay sigaar waxaana uga qaaday qof iga agdhowa markaasi bal si aan u ogaado waxa uu ku samaynayo wuxuuna shitay xasan xabad sigaar beensal ah isagoo qiiq badan ka daynaya afka iyo sanka kooxda ugus ee kis al-shabaab horjoogayaashoodu waxay ku nool yihiin nolol cabsi iyo argagax leh waxayna cabsida ugu badan ka qabaan sirdoonka soomaaliya ee nisa waa kan xasan xanafi oo sharaxaya cabsida iyo walwalka ay nisa ku hayso horjoogayaashiya maleeshiyaadka kooxda ugus dhexdooda xogta rasmiga ah ee aan hayaa waxa ay tahay waxaan ku raahdaa maanta nabsuudda ama hay-adda nisa sirdoonka nabsuudda qaranka culayska ay ku haysa al-shabaab culays la soo koobi kara ma aha meeshaan aan ku jiraan ka dareemiyay culayska lagu hayo al-shabaab waxaan ku arkay rag xildhibaano soo dilay halkaanaan ku arkay oo la soo qabtay rag maxaan ku rahdaa dad soo dilay ama gudoomiye waaxeed soo dilay ama dad dowlad ka mid soo dilay halkaanaan ku arkay rag miinooyinka u qaabilsanaa jira al-shabaab waa igaga soo horreyn halkaanaan ugu imdanay soo ay dariiq maanta shabaab nise waxa ay ku hayso culays ugu weyn ma jiro sidaasi la mida warbaahinta qaranka waxay iyana ku noqotay utun kooxdaasi ugus waana tan keentay in loo ciqaabo horjoogihii codkiisa laga maqlo warbaahinta qaranka oo inta badan raadisa codadka horjoogayaashiya maleeshiyaadka kooxda ugus xasan xanafi oo ka mid ah horjoogayaal ka tirsanaa kooxda ugus oo tiro ka dhowr jeer ay codad ka qabatay warbaahinta qaranka ayaa sharaxaya xaaladaasu dareenka ay ka dhex abuurtay kooxda ugus iyo isaga lafahaantiisa dhibaatooyinkii ka soo wajahay
wallaahi naxdin uma dhinno qof al-shabaab ah in cod dowladdu ay warbaahinteeda ku qabato naxdin uma dhinno waxa uu ka naxayna codkiisa ma aha waxa uu ka naxay waa culays la saarayo way codkaada lagaga qabtay codad badan inaa iga qabato waa ogahay si saaxiibtinimo iyo si guud dad badan soo wacayna codad badan ay iga qabteen waa xasuusanahay culayska al-shabaab aan kala kulmayay wax inta ku yaala ma ahayn ziyaadaan kala kulmayay heer godone anoo joogo galguduud oo soo waco oo yidhaahda inuu soo mara xafiiskiisa oo yidhaahdo ha yimaado shabeellada hoose aa imaado shirgoona ula yeesho wayniyo xasan xanafi intii aan la joogay waxaan ku arkay isbeddel dhinaca muuqaalkiisa ku yimid markii igu dambaysay wakhtigii uu ahaa saxafi ka shaqeeya magaaladan muqdisho waxaa xasan hadda ka muuqanayay dhaawacyo kuwaas oo sida la rumaysan yahay ka soo gaaray dagaallo dhowra oo ka dhacay magaalada muqdisho waxaan isaga lafahaantiisa weydiiyey xasan dhaawaca ugu ballaaran ee wejigiisa ka muuqda wakhtiga uu gaaray iyo sida uu dhacay dhaawacan wuxuu u gaaray insaan qiyaasay sanadkii 2011 markii ciidamada Burundi ay damcayeen inay dayni la galaan kuwii gulid jalsiyaad ka dhaqaaqay Burundi faraha badan maxaan ku raadaa iishay lagu leynayay ayaan maxaan ku raadaa iishay oo gaaray hoobi inuu ahaayaan rajaynayaa oo aan aaminsanahay hoobiyahaasana igu dhacay koox yar oo dacayadu sameeya al-shabaab waxay ku naqdiyaan waraysiyada aan qaado inay yihiin kuwa lagu qasbo dadka aan waraysanayo oo loo geysto jirdil iyo wixii la mida waxaan haddaba hordhigay xasan xanafi in lagu qasbay waraysigan uu siinayo iyo inay jirto jirdil loo geystay si uu sheegto waxaan jirin halkaa qol lambar 4 la yiraahdo room 4 la yiraahdo ka deganahay waa la soo baxay waxa isdhaafsanan inay jirin marka laga reebo in qorshuhu uu yahay sida tan ha iyo may toonana maxaan ku raadaa ii sheeg ma dhihin ha baan soo irin may toonana soo maanan oran soo jirdil wax la yiraahdo ma geysan mana la geysan doosan dhaneertu waxaan u sheegayaa meeshu saad u moodiin ma ahaanay si u taala ila arko yoonis waa magac afgarashaha oo ay kooxda al-shabaab u yaqaanaan waana shakhsiga bedelay xasan xanafi marka uu ku fashilmay wariyaasha yoonis wariyaashu ma aqoon ka hor dilkii Siciid Tahliil laakiin markii la dilay Siciid ay wariyaashu sas ka qaadeen xasan ayay kooxdu yoonis u xil saartay inuu la macaamilo warbaahinta haddaba yoonis waa kuma sirdoonka Soomaaliya ayaa intii aan ku jiray diyaarinta barnaamijkan igu caawiyay sawirka yoonis oo aan horey loo hayn waxaana markiiba aan tusay sawirkaasi xasan xanafi oo aan weydiiyey inuu yaqaan iyo in kale wuxuuna xasan xanafi ku jawaabay yoonis si fiican u qana yoonis waxa weeyaan hadda anigu noola ii dhintay ma kala garanayo laakiin markii war dambeeyay galguduud joogay ceelbuur joogay dabadeeto galhareeriyo joogay qoryooliyo mar yimid aan isku aragnay intaanan bixin ka hor maxaan ku raadaa isha soo sii socda galguduud yoonis hadda waxa weeyaan mas'uulka meeshii aan joogo shalay xiriirka al-shabaab iyo warbaahinta u dhaxeeya ama maxalli ha aadaan international ha aadaan ama kuwooda ha ahaadaan maxaan ku raadaa isha mas'uulkooda weeyaan asagoo naa'ibka ama ku-xigeenka maktabka iclaamka amiirkooda ah yoonis markii uu la wareegay xafiiska warbaahinta al-shabaab waxa uu bilaabay isna in sidii xasan uu wariyaasha handado waxaana ka mid ahaa wariyaashii u hanjabay allah u naxariistay liibaan cali nuur oo markaasi ka shaqaynayay idaacadda maxalliga Simba laakiin markii dambe cabsi uu ka qabo yoonis ugu soo biiray warbaahinta qaranka waxaana yoonis iyo liibaan dhex maray sheekadan halo yoonis niyo noo sheeg arrintan waxaan rabnaa inaan wax ka sheegne ana wax way sheegnaa daawno yaa daawno ku kaxsanaysaa maxaa dhacay waxaan ku weydiiyey xal markaa wareysanaysay maxaa la ii sheeg qaylo afrika ku handilay miya aniga wuxuu igu handida afrika iska quseeya idaacad la magac idaacad la macnaha ii sheeg wax loo sheegay oo xisbul islaam sheegeen iyo jubbooyin maxaa iska quseeya niyo yoonis oo anaga dhan si kale noo aragtaa saaxiibo wallahi bidaat adini wallahi lima si kale ku arkaa adina dhan ku sheegin cabdicaiis afrika waa mahadsan yahay dhiiridiisa hadday cadowgiisa maqlaan geedahay ka baxaan ninkaan codkiisa hadday maqlaan geedaha ay ka baxaan waa dambadaan aad buu u mahadsan yahay
dowladda Soomaaliya waxa ay dul saartay madaxiisa horjooga Yunis adduun dhan $30,000 cidii keenta macluumaad ku aadan sidii loo soo qaban lahaa horjoogahaas Yunis oo wixii ka dambeeyay Xasan Xanafi isagu mas'uul ka ah dilalka wariyaal ay ugu dambeysay Allah u naxariistay marxuumad Hindiye Xaaji Maxamed oo dabayaaqadii sanadkii tagay ay qarax gaarigeeda ugu xireen kooxda ugus kuwaas oo dadkii fuliyay ay ku jiraan gacanta nisa hase yeeshee maskaxda ka dambaysa wariye la dilo wixii ka dambeeyay markii Xasan Xanafi uu shaqadaasi ka wareegay waxaa kooxda ugu xilsaarnaa Yunis oo hadda ay dowladda Soomaaliya abaalmarin lacageed oo $30,000 gaaraysa ku bixinayso soo qabashadiisa wixii waqtigaasi ka dambeeyay Liibaan Cali Nuur wuxuu ku soo biiray SNTV oo ka noqday madaxa wararka iyadoona aakhirkii al-shabaab ay ku dileen maqaayada hooyooyinka Xasan Xanafi Xaaji waxa uu muddo ka mid ahaa kooxda al-shabaab waxaan weydiiyay maalinna intuu ka mid ahaa kooxdaasi inuu ku fakiray inuu isqarxiyeen kale hadda ka hor maya hadda kadibna maya xasan shalay uu ku qanacsanaa ka mid ahaanshihiisa kooxda al-shabaab isagoo aan la qasbin ayuuna muddo u qabanayay howlo kala duwan kooxdaasi laakiin maanta wuxuu ku doodayaa inuu ka qoomameynayo noloshiisii al-shabaab markii aan xasuusto noloshii maxaan ku raahdaa ii sheeg al-shabaabna runtii wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa waa isku bedelaya qanaacad guudna actually si dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto aan ku raahdaa ii sheeg al-shabaabna runtii wax la soo koobi karo ma aan sida aan noqonay waa isbedelaya magacaas kaliya aan xasuusta xataa waa isku bedelaya qanaacad guudna actually si dhab ah ma jirto wax xaqiiqiyan ah oo qanaacad ah oo aan ku qabto ma jirto Xasan Xanafi oo ay sirdoonka Soomaaliya nisa ka soo qabteen xadka Soomaaliya Kenya ay wadaagaan xilli uu doonayay inuu gudaha Kenya galo ayaa warar soo baxay waxa ay sheegayeen inuu waqtigaasi doonayay inuu u socdaalo qaar ka mid ah wadamada Yurub ama Ameerika Yurub ayaana u sii socday liajligeedina u socday dad ayaa dhahay visa waxaan haynaa Mexico oo Yurub oo Mareykanka ah dad waxay dhahayeen visa waxaan Ukraine oo Yurub saas loogu galayo Germany iyo Poland iyo wadamada xuduudda la leh saas loogu galayo dad bas si aragtidooda dhiibay laakiin anigu qaasatan waxaan rabay Jarmalka inaan aado ama Ingiriiska inaan aado labadaas mid baa ii qorshaysnay Xasan Xanafi oo 32 jira waxa uu hadda ku jira gacanta nisa wuxuuna jeclaan lahaa in la cafiyo aan loo maxkamadeyn dambiyadii uu geystay waxaan codsan lahaa dowladda Soomaaliya waxaan ku raahdaa ii sheeg gacanteeda hadda ku jira shalay waxaan ka aaminsanaa si aaminsanayn waa u sheegay waxaan ku raahdaa ii sheeg bal haddii la fiirinayo xalka buugan xariista in la fiiriyo insha Allah laakiin wariyaashu saaxiibadood dilay iyo helada dadkii uu dilay ayaa ku adkaysanaya inay arkaan Xasan Xanafi oo la hor keenay cadaalad wallahi waxay ila tahay Xasan waxa uu dadkan iyo dalkan u geystay isagoo qof ah wax aad u weyn weeyaan dhibaato aad u weyn weeyaan waxa la helayaa maanta wax ku dhow 100 caruur oo Xasan khiyaanooyinkii dambiyada uu mareegay u agoontooday waxa qabriga ugu jira dad ka qiimo badnaa isaga oo soodomeeyo ku dhow oo nuucyo kala duwan ahaa waxa uu sabab u noqday in wadankan ay ka qaxaan dad ka badan 100 qof oo saxafiyiin anigu marka aragtida qof ahaaneed waxay tahay Xasan wuxuu mudan yahay waxa cadaaladdu ay qabto inuu maro oo cadaaladda la marsiiyo waxaan si caad ah markaan u ogaa inuu ka dambeeyay dilka la naxariistay Abi Saciid Axmed sanadii 2009 bishii labaad afarteeda oo aan arbacaha ku beegneed saacaduna ay 7:00 doornimo marka hadda waqtigan waqti uu afis dalab badan ma aha anigu waxaan qabaa oo saxafiyiinta Soomaaliyeed ay qabaan in sharciga la marsiyo oo lagu xukumo dil toogasho si ay ugu waan qaataan kuwa kale dhagar qabayaasha wallahi kullee Xasan Xanafi aniga waxaan codsan lahaa wixii uu xaq u leeyahay oo maaragtay
maxkamadii ku xukunto oo dembigu gala ah in laga jaasiyo kulle aniga taasay ila tahay sababto waxay tahay xasan dembi aan yareen uu galay qof walbana dembigu galay inuu maaragtay ciqaabteeda u helo wax meesha ku jira waxaanan codsanayaa oo aan in badan codsanayaa haddii alla ku roon yahay in la mariyo abaalkiisa oo dembigii uu galay oo ciqaabtiisa maro sababtoo ah waa dilaa laayay dad badan marka weliba waxaan ku tali lahay inaan hal mar la dilin ee la dilo haddii alla ku roon yahay maalmo badan in la dilo ayaan ku tali lahay marka sharciga in la hor keeno waxaan qabaa in cadaaladda la mariyo haddii wax ku caddaadaan ninkaas wasiirka wasaaradda warfaafinta maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ku dhawaaqay in dowladda Soomaaliya ay u diyaarinayso Xasan Xanafi inay horgeyso cadaaladda si loogu ciqaabo dunuubtii uu geystay xasan xanafi waxa la horgeynaya cadaaladda dilalka badan ee uu geystay wuxuu ka tirsan yahay ururada nabadiidka ayuu ka tirsan yahay al-shabaab iyo al-qaacida ka tirsan yahay qofkii aan isi soo dhiibin isaga oo aan dembi gacanta kula jirin oo lagu qabto qaabka xasan xanafi oo kale isaga oo ku dhex jira dembiyadii oo intaasoo qof dilayna sharciga dowladda uga yaala waa in la horgeeyo sharciga oo ciqaabta uu mudan yahay la marsiiyo marka isaga iyo kuwa kale gacan ku dhiglayaasha ka dambeeyay ficilkii ugu dambeeyay hadda liida ka dhacayay ee aad arkaysay sida loogu xasuuqay dadka shacabka caruurta maatada qoysaska dadaroosa wuxuu ka tirsan yahay Xasan Xanafi maragtay urur argagixisa oo aan naxariis lahayn oo dadka Soomaaliyeed diintooda iyo sharafkooda iyo dhiigooda banaystay marka waxa la marsiin doona ciqaabta uu mudan yahay wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ay waqti kasta heegan ugu jiraan ilaalinta amniga guud ee qaranka waxaan kormeel guud ku soo marnay magaalada Xamar dhamaanteed meel walba aan soo tagnayna waxa heegan ka ahaa ciidamada qalabka sida waxaan soo aragnay shacabkii oo diyaar u ah inay dawladda la shaqeeyaan amniga ay wax ka sugaan heegankaas ayaan lagu jirayaa ciidamada amnigu waa inay hawshooda qabtaan oo ay la dagaalamaan cid walba oo qalalaaso ama wixii criminality activities ama falal dambiyeed cidii wado inay la dagaalamaan waxa kale oo aan rabnaa in shacabka iyo ciidamada amniga ay si fiican u wada shaqeeyaan dhinaca kale waxay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA markii ugu horeysay soo saartay awaamiir ku aadan la xiriirida iyo macaamilka maleeshiyaadka kooxda ugus ee al-shabaab war ka soo baxay NISA waxaa lagu sheegay in muwaadinkii lagu helo inuu telefoon kula xiriiray qof ka tirsan kooxda ugus inay tahay dambi loo ciqaabayo sidoo kale waxaa iyaduna dambi ah in lacag loo qabto ama loo kala gudbiyo kooxda ugus waxaa sidoo kale iyaduna dambi qaran ah in macaamil dhinac ganacsi ah lala yeesho cid ka tirsan kooxda ugus ee al-shabaab inkastoo dadkeenu dulmiga uu ka sameeyo dooxatadu xasuuqaan haddana waxa uu sii daran duulkan habaaranay saxaafadda ma daayaan warbaahintuna ma daayaan dabley aan la garan baa saaka wariye dilay oo duugtiisa joognaa dadaalka iyo hawshana kama daali doona dadweynuhu ogsoonow shacabkuna ma daayaan waa yaaba yaa dilay maxaa wariye loo dilay ma la helay kuwii dilay hay-adaha duniduna u dulqaadan mayno iyo cambaarayn ma daayaan guud ahaan barnaamijkeennii dilaaga wariyaha oo uu ii farsameeyey kaamiradana ii hayay saaxiibkay Moho Caraye waa naga intaa tan iyo intaan barnaamij midka lamida ku kulmayno nabaadiin iyo nooli kulanto. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.